بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال meel kastoo aad joogtaan waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka labeynta bulshada oo runtii ahaa barnaamij sanad ka hor noo socon jiray laakiin haddeer aan dib u bilownay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan ku casuuno oo aan kula sheekaysano dadka bulshada dhexdeeda macnaha ku dhex leh isla markaana aan ku tabayno in waxyaabo dhaxalgal ah ay bulshada u gudbin karaan iyo fariin laga wada faa'iideysto barnaamijkan oo dib noogu bilowday haddeer waxaan ku bilaabeynaa ama ku marti qaadnay maanta cabdifataax maxamed cabdi oo loo yaqaano qaydan leh ahna mulkiilaha iyo sidoo kale maamulaha shirkadda electronicska The Blue Star cabdifataax waxaan kala sheekaysan doonaa ama wada sheekaysigeenu uu ku qotami doonaa ganacsi cusub bilaabidiisa caqabadaha ku geedaamin iyo sida uu ganacsigaasi u noqon karo mid guuleysta waxyaabo badan oo aan filayo haddii aad ganacsi xiisayso iyo haddii aad ku fikiraysaba kaa dhex guuxaya ayaan halkan ku falanqayn doonaa waan rajeynayaa inaad nala joogi doonto haddii uu sarreeya saamaxo sidoo kalena muuqaalkan aad la wadaagi doonto qof markaasi danaynaya waxyaabaha aan ka hadlayno dabcan waxaad sidoo kale nala wadaagi kartaa meelaha uu wareysigani dabcan ka xiise geliyey iyo waxyaabihii aad ka faa'iiday qaybta faalada ayaad nagula wadaagi doontaa marka hore ila soo dhaweeya cabdifataax maxamed cabdi kadibna waxaan u gudageli doonaa weydiimaha aan halkan ugu diyaarinay cabdifataax soo dhow ma ku dhib qabtaa finan haaro jirka oo ku gaduuta ama qalala xalka dhabta ah waxaa idin haysa BQ Cosmetics waxaad ka helaysaa kareemo tayo leh oo dabiici ah laguna sameeyay Yurub saliidda timaha ayaad sidoo kale ka helaysaan wixii faahfaahin kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda Ibrahim aad iyo aad u mahadsan tahay waan ku dhawahay barnaamijka labeynta bulshada waxaan rajaynayaa aniga haddii aan wax badan laga faa'iidin in aniga wax badan aan ka faa'iidi doono dad badan oo la soo fariisi doono insha Allah aniga waxaan jeclahay wixii kufaan soo maray oon soo kacay ama soo kufay iyo hadda meesha ii marayso insha Allah inaan dadkii ka faa'iidi karay dadkii wax u tarayso intaba inaan u faa'iiday insha Allah waayahay cabdifataax maanta dad badanaa waxay ku fikirayaan in ganacsi cusub ay bilaabaan talooyin ay u baahan yihiin dad baa sidoo kale u baahan inay maalgelin samaystaan dabcan kama maarmaan markaas talooyin dhanka dhaqaalaha la xiriira inay helaan adiguna filligan in muddo ah kusoo dhex jirtay su-aalaheenu dabcan intaas ayay dabcan ku dhex meereysan doonaan su-aasha ugu horreysa oon jeclahay inaan ku weydiiyaa waxay tahay dabcan ganacsi guuleystay ayaad haddeer ma aragtay leedahay ganacsigaas ka hor ma jiray waxyaabo kale isku day kale oo aad soo samaysay haddaad in yar nooga warrantay iyagana Ibrahim aad iyo aad u mahadsan tahay haddaan gadaal idii qaado oo ka hor The Blue Star hadda inta badan la wada yaqaano dadkan igu yaqaanaan ka hor intii isku daya aan soo sameeyay haddaan gadaal aadno oo dadka update gadaal aan ka soo siiyo horta أنا وحن إلى هذا جناح من قفك إياه أما رو جناح سجل وهورين وين قلبي كي ما تقفك إنه جناح سجليه تعمر كان لي هاي أنا وحن جامعة الأمي سنة 2010 بشيل هاد جامعة هندي كنت على عثماني فرستيلي هذا بشيل هذا الأمي بشي تضبطني وشقينا صح هل بلا جاب أو نحيسي bishii lixaad anoo hindi joogan jaamacadda dhammeey bishii toddobaad waxaan joogay China shaqo yaan halkaa ka helay oo adiga xilligaa inkastay 12 sano ka hor aheeday mushaarkaan xilligaa qaadanay $400 wahay kuma qanacsanayn shaqaalinimo ahayd anoon ku qanacsanayn iyo hadda waxaan isku dayay hamigayga mar walba waxaan ganacsi shaqaalinimo ma ahayd muddo sanad meelaha markaan joogay China isla 2010 ilaa 2011 meelaha ay noqotay yaa xoogaa yar oo lacag ahaan aruursaday wixii gaartay because $400 oo qaadanay 200 waxaan soo diray Soomaaliya 200 waxaan u diray Kenya 400 meeshaas iga dhamaanays laakiin shaqo kale oo ka baxsan
oo part time job on qaba jiray iidan wax ka heli jiray jirto tii waxaan ka aruursaday yaa $1500 camal ii gaartay $1500 yaan $1500 kala dayn intaan raasay 3000 isku geey yaa waxaan la kaashaday nin xasan la dhihi jiray walaal ilmo habreed aan ahay asna joogo Holland asna aad u ganacsi ugu jeclaa hadda waqti haadirkan waa nin ganacsadaha weyn oo Yurub inta badan laga yaqaano Soomaalida ganacsiga aad Yurub ugu horumarto ku jira laakiin xilliga aan asiga bilaabaan haynay waxaan isla garanay maadaama aan China joogo meelaha inta badan wax laga dhoofiyo ay China tahay asna oo Yurub joogo asna kuma qanacsanayn shaqaalnimada Yurub markaas inuu ganacsi isku dayo jeclaa waxaan ka wada hadalnay inaan maadaama aan base-kii wax laga soo rarayay ama warshadihii ku yiileen aan joogo inaan wax uun xagga ka dhiibo asna oo qaybta iib geynta oo xooga saaro Holland markaan geynna asino iibo waxaan isla garanay inaan wax uun yar ku bilaabi karno haddii safarada ay sii bataan wax badan aan ka faa'iidi karno muddo sanada lacagtan ururinay $1500 aheeday iyo $1500 deyn oo soo qaatay 3000 yaa alaabo yar yar oo markaa isla fahanay boorsooyinka dumarka kabaha dumarka waxyaabahaas la xiriiro jewelry-ska waxyaaba yararka oo dumarku soo qurxiyaan la xiriiro yaan adiga intaan xasuusta 4 kartoon amalan ka dhignay 4 kartoon waxaan saaray cargo ka bixisay markaas China anima waxaan joogay magaalo EU la yiraahdo ku socotay Holland adresskiisan ku qoray markaad businesska bilaabtayna wax badan yaa ka qaldamay laakiin qaladna ma ahan oo cashiraad ka baranaysaa oo inaad hore u socoto mistakes iyo wax badan ku barayaan lacagtii $1500 iyo $1500 soo diinsay 3000 on alaabta iskuugi 4 kartoon in noqotay waa diray expectation-keenu wuxuu ahaa 3000 ugu yaraan kaas wixii euro baa loo wadaa shaygii $7 noogu fadhiyo ugu yaraan $20 inuu noo gatamo shaygii $10 noogu fadhiyo ugu yaraan $30 inuu noo gatamo expectation-keenu wuxuu ahaa 3000 in 3000 kala noo dhasho halkaas safar alaabta way tagtay euro bay tagtay laakiin qaladka ugu horreyn sameeyna wuxuu ahaa asna ganacsi kuma jirin laysan ma lahayn ganacsi alaabtan haddii mar hadiyad ka badato oo shakhsi ku socoto ganacsi isku bedesha wuxuu baahan tahay laysan iyo clearance maraysa customkii airportka joogay ayaa ku dhigay alaabtii clearance weydiiyay laysanka ku socoto weydiiyay asna ma haysanin experience isagana ma lahayn anigana ma lahayn kaas markaas isagana Europe ku cusba anaga ganacsiga iyo China ku cusba alaabtii dawladda la wareegtay $1 meesha noogama soo laaban markaas dawladda la wareegayso $1500 waaba ka sabri karaa waa taan shaqeeyla $1500 kala leeyahay lahaa waa digid in shaqeeylayga baxna soo meeshaas xogo qalbi jab badan aan ka qaaday 6 bilood iyo 8 bilood ka dambeysay lacagtii $1500 deynta leeyahay lahaa yaa guday ka ganacsiga ugu horeeyay isku dayo waxa kaas mana ka shalaayo wax baan ku bartay 2010kii adii ilaa 2011kii dhamaadkiisii ama bishii sagaalad ma xilli tahay yaan ku gaaray China China-da mid dalabkaas hadeer aad Europe u dirtay imisa maalmood dhax ku jiray gaabka ma badno meesha cargo-gu waa express 3 days maximum ay ku siinayaan express waaye sida Soomaaliya kale ma waa 3 days Europe kale marka loo diraayo mararka qaar ka yar 3 days ku gaara because aad wax u kala qaataan cargo-duna aad u shaqeeya China marka intii ka dambeysay deyntu iska kala garay laakiin inta halka joogay ganacsi kale ma awoodin in isku dayo xogaa waa iscelinaa xogaa deyntaas waxa iska kala garay haddana nasiib darro kale ugu sii dhacday jirto company la shaqeynaa mushaarka qaadana yaa asigana salguuri ama nabad guuri ama bank rabti ku dhacay company-gu meeshii uu ka soo tagay anigana meeshii sharcigii wixii ku lahayn company-ga ku shaqeynaa waxa waxay dantu ugu qasabtay in Afrika soo laabto markaa adiga muddo aan dhigi karo 2011 dhamaadkeedii ku soo laabtay Afrika Nairobi ka soo degtay xilligaas Nairobi ka soo degana waxaan dhigi karaa lacag dhan jeebkii wax ku jirta adiga lacag $1 camal shahaadooyinkii laga wata jaamacadda Hindiya ka soo qaatay odayaalan qaraabanahay iyo dad badan ay soo dhaweeyay waxay aad igu booriyeen in aan kamiyal Hindi leedahay iyo kamiyal kale oo meesha ka shaqeeyo shaqo leeyahay raadi shaqaalanimo ana shaqaalanimo markaan guli kuma qanacsanay
isku day kale labaad damacsan tahay ها isku day kale rabaa way shahaadooyinkii wixii way iga qaadeen laakiin ma sugin kunka doolar haysan intuu ka dhamaan horta bal isku day kala sameey nina saaxiibanahay oo Cabdullaahi Axmed la dhigi jiray Afrikada joogay Botswana wada liiraso Afrika ku dhigan yaan la hadlay waxa ku yiri meesha maxaa ku haysaa u yiri gawaaridan iibiya waan iskaga dhaqana marka waxaan ku yiri hadaa imaado wuxuu yiri hadaa imaanaysid lacag wax ma haysataa markaas waxaan ku yiri wax ma haysto marka wuxuu yiri meesha cid wax haysto wax ka qaban karto ina iska joogtaan kugu la talina go'aan iska qaatay kunkii doolar oo jeebkii ku jira markaas 800 ka tikitan ku jirta go'aan bag saaxiibkay maalinka diyaarada raacan u sheegay waxaan ku iriyay maanta oo soo deganayahay airportkayga Sudan way soo dooyay si fiican u soo dhaweeyay xafad uu degan yahay oo kiisa u geeyay wuxuu sameeyaa asiga gawaarida meeshaas showroom waaweyn jiro oo baabuurta lagu iibiyo dad iska leh gaari kasto adiga gaari hada gawaaridaas ka ganacsanaysid 10 gaari 20 waxad buuxii la egtaa jeebkaaga yaad showroomkaas keensanaysaa showroomku way ku iibina commission ka qaadan commission ama wax yar oo khidmad ah hadii hal gaari lagu iibiyo kala $50 $100 oo khidmadaha laga qaadan asigna faa'iideysa 500 kun waxay u saaran oo si saaran masaas ku shaqaysi jira dhowr subaxan meelihii showroomyadu tagaan u raacay meel wax ka bilaabo mana shilan ma haysto asigeena nin aad u jeeb buuran oo aniga marka ay gacan qaban kara ma ahayn adi muddo bil ama 2 bil ku dhawaadaan gurigiisa jeefay subax kasta soo kacaan wax qiimeynay markii dambo 2 bilood intaan gaarin waxaan ku irinay adiga showroomyo dadka leeyihiin baabuurtada dhigata xoog baabuurtada ma badin dad kale baabuur iyo waxba u hayay waxaan u soo jeediyay fikrad ah ka war hadaan naga showroom furano oo maxaa la yiraahdaa baabuurtada kalena oo iibino commission ka qaado wuxuu waa tala fiican hada isku kayna aadi karto hadana waxba soo raadiyay meel showroom laga dhigi karaan soo raadiyay kireedada yar tahay ma soo qabtay oo imaado waxaan ku yiri meeshan aan ku bilaabayna meeshii wuxuu yiri meeshan manager kaaga dhiga bishii $300 qaado ana waxba ma hayo marka 300 maana 200 maana 100 dilay sheegta waa raba meeshii marka isku aadinay baabuurtiisii meeshan keenay baabuur kale oo dadka leeyihiin iyo commission kale ma bilawnay meesha ana manager ka ahaa 3 qof oo kale la shaqeynayay oo wadanka u dhalatay may laba wadanka u dhalatay mid kalena Soomaali ahaa laakiin 3-4 ana waxa uu ahaa manager u ahaa gaari ka soo iibino $50 amal anaga ka shaqaalahan aan kuleyna saddexda kale hadii $30 amal qaataan ama 20 qaataan maadaama manager-ka ay garteen $10 marka helno $30 amal ana la isiya si fiican marka meesha wax fiican ay soo dhici jiray maalintii 2-3-4 gaari hadaan iibino waxba ay soo dhici jiray and then xogaa muddo markaas ku waday wixii 1,000-2,000 aan gaarsiiyay baabuurkayga dadka baabuurta Japan ka order gareystaan soo Afrika soo degtaa meel yiraahdo Durban kidib la soo gudbiya wadanka la keenay waa diris marka Botswana iyo isku dhow yihiin marka maadaama lacagtiidiisan diris gaarin Japan iyo aan ka qayb qaadan karin waxa sameeyay local inay ka qarabto baabuur la soo cilina qof shakhsi iska wado baabuurta san la gorgortama waxa la helay 1,000-2,000 hadba inta ku heshiino عندنا وضيع ترى وحبينا دي بهذا إسلا شهرهم كويبنا وسكن هن ولي قانا تارجو له قيمة هرلا ما كذا لكن قيمة هي أنا كسي سنة صارنا قبل كسمر كوسا باللاوي صبحي أنا جراش كفوري جري وماشى شهرهم كفوري جري سلاس واحد كسود كذا 6 ميلا سما 7 تيم كلاش قيا 8 إلى 9 معناين دور بلون سيدي كسو جم هذي حلقة قاريها يا شيء أو ساسو كله gaari kale noqday adi muddo sanad markaan joogay meeshii alxamdulillah level fiican oo dhowr baabuur aan aniga meeshii aan ku soo darsaday yaan gaaray muddo sanad gudahood meeshii wadanka iska degay sharciyan lahaa work permit lahaa residence permit lahaa iyadoo meel fiican oo marayso muddo 2 sano meelaha aan joogno xogaa dhaqaaliga soo koray yaa hadana Soomaaliya iska taqaanaa dad nala tartamayay oo ayagana showroomyo kala lahaa yaskayna arkay oo waxa nagu soo gal darooday wadanka niman DIS la dhijiray oo CID amal ah walaaki awood badan lahaa iyo lahaa nagu soo dalbadeen anaga iyo nin kale Ingiriiska imaado Ahmed Liiraad saaxiib ay haynay iyo nin yarkii kale oo isla shaqeynay Abdullah wixii oo dhan sharciga 5 sano work permit residence permit ka la haynay waana laga kansalay 3 days bas ana loo qabtay liir wadanka uga bax taana iyadoo marka meel fiican imaraysa ganacsigaas iyadana irkay wax kale ka soo dhacay maxaa idinkaga badbaaday meeshaas walaahi horta wax badan nooga badbaadin aniga markaa ka dhaqaale ahaan dhaqaalaha ziirka soo bilaabay muddo sanad gudaheed ama sanad dhowr bilood
40 kun camal gaarsiiyay waay iyadoo meesha ay marayso dee wixiina gawaari ay ku jiraan markii 3 days loo qabto waxaan ku qasbanaanay inaan Soomaali kale ku wareejino dhan wixii ka soo cadaa karo ka soo cadaadaan waa ka soo tegay markaa Afrikadan kale iska soo marmaray dhowr wadan oo Zambia iyo Tanzania meel kale ku jiraan kadib waxaan imaaday wadanka Kenya oo markasta base ah ta jaamacadda aaday wadanka Kenya ka tagay markaan soo dhameeyay Kenya ku soo laabtay hadana China Kenya ka aaday marka China ku soo wareer hadana Kenya ku soo laabtay hadana Botswana ka aaday hadana markaan soo wareer Kenya ku soo laabtay waay Kenya ku soo laabtay marka Kenya 2013 ahaaday xilli wadanka xogaa rajo fiican ka jirtay oo aad loo boonbooninay oo la dhahay wadankii waxa ay qurba joog badan ku soo laabanaysa in la dhahay ahaaday Kenya markaan ku soo laabtay Nairobi waxaan ka bilaabay hadana intaan laba isbuuc joogin travel agency ka furtay dadkii Soomaalida aad soo laabanayaan aad uga shaqaystay waay iyadana meel fiican iyo mareysay dhowr biloodan ka ku shaqay ma ku daahin waana ku haystay oo wax soo saarkiisu waa fiicnaa laakiin caqabado kale iga soo gashay oo meeshii oo iga furnaa iyo suuqii iyo waxba la isku qabsaday duwaankii meeshii iridii wixina laga qaaday marka is qabsi kale anigana igu socon laakiin marka asigana isu guud noo saameeyay way socwaysay iyadan si fiican dhowr bilood 3 bilood meelahaas aan ku shaqeynaysan isla waa isku dayay saddexaad waa soo baxay Soomaaliya ka soo degtay Muqdisho markaan Muqdisho aan ka soo deganayo qorshahayga wali aan Afrikadaas meelaha kale u bartay wuxuu ahaa balato maamadii iyo reerihii iyo dadkii iyo wadankii muddo 10 sano ku dhawaad aan ka maqnaa inaan bal soo salaamo soo indheeyo hadii wax iga anfacaan helana aan kalo hadii aan ka waayno bal Afrikadii meelii kale qaba karta ku laabto 2013 ka wadanka dib u soo laabtay horaan ka gudbay hooyaan soo salaamay oo waxaan tagay aabo iyo qaraabadii beladina tagay horaan ka soo laabtay si fiican marka intii baabuurtii u dhaxaysay iyo xilliga aan joogay xilliga travel agency u dhaxaysay xoogaa fiican travel agency ka soo fahmay xilliga Muqdisho marka waxaan ka raadiyay travel agency kale inaan ka furo dhowr bilood aan raadiyay irid fiican oo qalanto iyo waaway xilliga way suurtagal waysay dhaqaalihiina in kala xooga Kenya iyo Afrikadan kale ku soo dhamaatay iyo marka wax yar oo kooban oo gaabsiga ka haray oo waxna lagu furi karin biilkiina oo soo dhamaanayo expenses badan ay ugu socday dad badan aan biilal iyo wax meel badan kula diri jiray si fiican intii marka ay socwaysay maxaa la yiraahdaa inaan business kala furo yaan waxay sir hadii xaalad adkaato waa in meel kale lagu fakada heshaashadooyinka wixii la soo baxay shaqooyin waxba abalay garay inta marka hay'adaha aad u kacsanaa xogaa paymentigooda fiicnaa dadkan aad u xiiseynay marka dhowr application dhowr meelood kala duwan u diray imtixaano kala duwan aan galay position marka 2013 maalmahay bishii aan imaaday laba bil meelaas aan joogay position waxa helay ICT officer ama IT officer dawladda officeradana xilliga position Soomaalida ugu sareeyo ayuu ahay marka positionka shaqaalnimo marka bilaabay xoogaa marka businesskii waa adal ka soo weecday laakiin wali qalbigu uga jira kuma qanacsan shaqaalnimo laakiin lacagteedan ka maarmo waa si maaraysa muddo sanad amal markaan shaqeynayay shaqaalnimadii yaan hadda wax isku day ganacsi kale waxaan sirado shaqaalnimo waa in ganacsi kale waxaan isku daydaa xilliga internetka xoogaa aad u adka Soomaaliya waa xilligii internet cafeeyada ama internet cafe meelaha internetka loo tagay furnaayeen because guryaha internet kuma jirin 3G xataa xilligaas ma shaqeey jirin 4G iyo mobile internetka dhan ma shaqeey jirin waa qofku wireless oo ku xirnaada xilliga la diidanay ahayd marka sanad muddo aan shaqeynaa xoogaa wax aruursaday ani yar kala saaxiibana Cabdirasaaq la jiray oo jooga hadda yaan waxaan isla furnay meel internet cafe oo ku taalo Bulxubay idan waa fiicnad ma sha Allah heed wana shaqeysay shaqaalan u yeelnay team 2 qof 3 qof ilaa 4 qof ka shaqeynaysay muddo sanad ku dhaw shaqeysay waa fiicnaday meel fiican mareysay laakiin iyadana markii meel fiican ay soo gaartay levelkeedu fiican yahay yaa hadana internetkii 4G-gii iyo ama 3G-gii mobile internetka la soo day xaafadii internet la gashaa bilaabatay baahidii markuu waxa yaraatay qofkii inuu soo baxo oo internet banaanka u soo raadsado annagana baahi markaas jirtay aan ku bees gareynay baahidina meeshii ka baxday
waqti xadirka hadda isla hadlayna meel internet hadda loo aadaa ma jirto ma jirto marka taasoo kale markay soo korortay iyo businesskeenu suuqa ka baxay joogsana sanad kadib businesskii waa iska xirnay wixii kombiyuutaradii iyo la xaraashka waa iska xaraashnay ka halkaas waa sina ku dhammaaday isku dayga afraad waa isku dayga afraad meelahaas waay 2015kii dhammaadkiisii yaan haddana waxaan ka furay muqdisho kambaniga ugu horreeyay online wax ku iibiyo saylad aa la dhihi jiray website waxaan u sameeyey saylad.com la yiraahdo xaflad weyn aan u qabanay oo tvyaal xataa weliba international ay kasoo qayb galeen aan xasuusto tvyaal loo kala Soomaaliya badan ay kasoo qayb galeen hadda waqti xadirkan hadii ilaa hadda markaan dad badan ay soo diray screenshot fast online market Soomaaliya lagu qoro xilliga xafladan qabanay iyo marketkan furnay soo baxaysa yaa soo baxayo xafiis aan ugu furnay shaqaalaha asigana muddo shaqeeyay xilliga weli shaqaalan ahay anoo shaqaale ahaan dalab isku dayay business kale inaan sameeyo oo isku dayay asigana xilliga markaan ku sheegayo shaqaalanimadeedii xogo markii hore officer aan ka soo bilaabay area coordinator aan noqday like country coordinator aan noqday safarayda marka aad u batay oo ilaa Soomaaliya meel ka baxsan shaqo u tagi jiray marka safarayda aad u bateen iyo businesskii cid isku hayso iyo cid isku controlsha la waay waa baxay ilaa 3 bilood meelaas markaa maqlan soo laabto basic ku soo laabto waxaan maana shaqadii xogaa kala daadatay oo wax badan ay ka halaabeen marka isku aadiyal 2 weeks aan jooga ama 1 week aan jooga darajada xogaa fiican markaan ka tago way halaawdaa dale meeshii ka soo laabata waay businesskii kaas asigna dhowr sano horta jiitay 2015 ilaa 17 adiga 2 sano ilaa 3 sano waa wadnay asigana time la'aan iyo juhdi aan geli waayay waxaa badan u xirmay ka asigana waa soo xirmay waa kii shanaad waay waxay tusinaysaa ma dadku waxay ugu barteen Blue Star laga ka hor isku dayo badan saylad marka waxa ku xigtay the Blue Star ku xigtay waay runtii waa waqti aad u dheer shantaas isku day ee fashilmay cashara aad ka baratay imise sano ayay soo socdeen markii bilow ilaa dhammaan isku day adiga inta fashilantay ilaa Blue Star waxa u dhaxaysa 10 sano 10 sano markaa 2010 soo bilaabay isku dayga ugu horeeyay kii ku xigay ilaa 2011kii kii ku xigay 2013kii kii ku xigay 2014kii kii ku xigay 2015kii and then kii 2015 ilaa 17 soo gaaray Blue Star waxaan furnay 2020kii waayahay kuwaasi waa isku dayadii shirkado kala duwan ka soo shaqeysay qaarkood ay yihiin shirkadaha arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka ka shaqeeya ilaa heer darajo aad u sareyso country director coordinator aad ka noqotay country ICT coordinator aad iyo aad imise sano ahayd inta shaqaalaha soo ahayd waxaan shaqaalaha soo ahaa adiga muddo 7 sano ilaa 8 sano markii lagu hay'adda bas markii la yiraahdo waa 7 sano markii shaqaalada kale community kale uu shaqeeyo markii lagu dana waa sanad xogaa ilaa 2 sano marka wax isku noqonaysa 8 ilaa 9 sano shaqaalnimo aan ahaa meelahaas ay noqonaysaa shaqaalnimo soo martay mushaarna waa qaadan jirtay laakiin haddeer waxaa tahay ganacsade isagoo mushaar bixiya oo loo shaqeeyo labadaas marxaladood markaa isku fiiriso maxaa farqiga u dhaxeeya walaahi horta dadka qaar markay ku arkaan adoo ganacsade ah ama iska jiifo ama iska wareegayo meelaha iska dalxiisayo iska baashaalaha markay ku arkaan waxay aad u xiiseeyaan in ganacsade u noqdaan ma fahantii laakiin dib badan ka horeeyo waay labadaba way fiican yihiin dhigi karaa qofka asoo horta sidiisa fresh directly ganacsi muu soo aadi karo sababta uu soo aadi karin aniga aan u leeyahay waxay tahay wixii inaad ku raaxaysataa rabtaa adoon dhib iyo waxba aan soo arkin dad dheefti u boodo dheefti kuma raaxaysanaysid waa inaad marka hore dhib soo dhadhamisaa si dheefta iyo macno kugu yeelato qofka saani waxaan jeclaa lahaa markasto in horta shaqaalinimo soo maro wax badan experience badan oo soo hela dad la dhaqanka maxaa la yiraahdaa wada shaqeynta subax kasta soo kicitaanka timeka lagu qabanayo timeka soo baxayso in aadan fasax iska aadi karin in aadan maalayaan iska bixi karin in quality-ga ay leedahay maxaa la yiraahdaa nolosha oo dhab soo arka kadib asoo intii sida u diyaarsan haduu business soo galo macna ka keeni karaa laakiin haddii taas soo marin wuxuu badan tahay in business ku fashilanto waayahay
dabcan soomaalideena waa inta badan laba caqabadooda jirta si guud xitaa waxaa la yidhaha afrika ayaa caqabadaas haysataa waxaa jira dad fikrado ganacsi haya laakiin aanan dhaqaale ay ku bilaabaan aanan haysan iyo dad dhaqaalihii haysta laakiin fikradihii ganacsi ee miro dhalka lahaa aanan markaas gacanta aanan ku haynin labadan ciladood waa baahiyo jiro dabcan maxaad is leedahay waa lagu xallin karaa ma labadooda ma la isku keeni karaa oo wax ma ka soo bixi karaan wallaahi hortani way dhib badan tahay dad badan oo horta anaga naga talanti badan aniga cabdiftaxaan iga talanti badan iyo magaalada ku jiro laakiin la fursadii ku heli lahaayeen ama capitalkii wax ku bilaabi lahaayeen ama ciddii support kare lahayd ay helayeen aadan u aaminsanahay because aniga wax badan isoo martay markastana waa wax jiro fact jiro waay waxa kaloon aaminsanahay dad ilaahay wax u dhiibay oo lacagtii haayo ani hadda markasta imaad markaas aad guulaysato ama ay dadka wax kugu tabayaan ugu yaraan way ku imaanayaan waxbay kula soo raadsanayaan waa dadkii koodii hore markaad ziir aheeday wax kaa ilaalinayay ama ku diidanay inay ku support gareeyaan dad badanoo hadda waxaa jira ilaahay wax u dhiibay akaanada iska buuxaan laakiin meel wax ka bilaabaan la fikirkii ma hayaan ugu yaraan haddii xataa wax bilaabayaan wax qalqaldan intii bilaabaan lacagtu ku dheelo oo wax badan luus gareynayo ama wax badan khasaarinayo dad badanna waxaa jira saas oo kale fikradii iyo maskaxdii iyo juhdigii iyo dadaalkii wixii dhan hayo laakiin aanan shilin haynin iidan waa jirtaa marka waa caqabado labada dhinacba aad uga jiro kan lacagta haysaana ma aamino qof ziir ah oo maxaa la yiraahdaa ama isku day guuleysta oo ku hayn ma aamin markaad guuleysato cid kasta iyadoo kula soo raadsanayso in aan ku gana 100 iga qabo noogu shaqay waxa ka soo saartay 50 qaadi 50 ana qaadana way jirtaa laakiin marka hore si aad u guuleysato waxaad u baahan tahay inaad ka caaqufto marka dhalinyarta in waxaan kula tali lahaa qasab maahan inaad meel sare ka bilowdo qasab maahan in investment badan yeelato laakiin waxa muhiim ah in ugu yaraan aad dadaasho ziira ka soo bilow أنا مركب بلو ستار وكل بلعبة إن هذا قيبت بلو ستار كم من كان عساش ورا كسر شكلين وحياة ويران كل بلعبي لكن ويران حتى واحد يصير إنه هيسطو إذا مهم واي إن حتى هذا هيسن ويران قف شقي وبزنس لله شقي شغال إنه مقولة شقي وإحنا كبره إن وحاجنا أروسه ويران عنده قف كسخف في أي هين أسا وكباي وكو إنفستيكرينا حقوسا يمكن إيه لا يرتا إن تالنتي وكتور وأمين سنة ضد إنه حقابك كران واي dabcan waxaa jirta fikradaha ganacsi in la iibsado oo fikir ganacsi oo kala qof inuu keeno oo qof hantideedii haysto uu ka gato arrintaas Soomaaliya ma ka shaqeyn kartaa horta Soomaaliya sharciyo kama jiraan maalin kasta waxaa aragtaa baarlamaanka Soomaaliya sharciyo balbaas garay sharciyadu waa weynaa oo hadda ama CID policy ama wixii masiirka waddanka taabanaya horta wali soo dhaafi laayeen sharciyadan koob ma joogaan waxaasna soo ma gaarin waqtiyada kamid waa la gaari doonaa hadda waa on isfahan wax Soomaaliya ka jira isfahan in adigna fikir la imaato in dad la tagto inta badan ee dhacdo inaad ama magyaal dad waaweyn oo lacag yahay inta ula tagto fikirka laga dhageysto markii laga dhageysan berri idoo la rangareyn aad aragto waxbana kama qaadi kartid marka on hala dadaalo oo fikirdeedu ku soo dhamaanaysa waxaan markaan imaanaynaa biyo dhaca oo ah bilowga ama bilaabidda ganacsi cusub marka ugu horeysa in badan waxbaad soo bilowday isku soo dayday kadibna ganacsi guuleystay ayaad dabcan ku hirgalay maxay yihiin su'aalaha ugu muhiimsan ee jawaabaha u baahan ka hor inta aanan ganacsi la bilaabin waa su'aalaha waa badan yihiin waxaartu ugu muhiimsan waxa waaye experience anaga shaqaalenimo hadda markii shaqaale qolo company ama hay'ad ama dawlad ay soo arfartas gareynayso ama soo xayeysiinayso waxa lagu qaataa experience shahaadooyinka inta badan waxa ka muhiimsan experience-ga shahaadooyinka inta badan hadda qaarkood waa dugsi sare qofka la qaataa qaarkoodna baaja la qaataa wax master sheegayo horta maba inta badan lama arko laakiin waxyaabaha la arko waxa kamid ah qofka shaqada waxay ka bilaabtaaba minimum 2 years experience inuu leeyahay minimum 3 years experience qaarkood waxa lagu qoraa 5 years experience qaarkood 7 years experience 10 years experience yaa lagu qoraa muhiimadda loo qorayo waxay tahay qofkaas shaqada u yaqaana already uu kusoo shaqeey uu ka bixi karaa loo qaataa taa bedelkeeda marka ganacsigu waa sidoo kale
su-aasha ugu horeyso qofka isweydiin waxay tahay horta aqoon buu leedahay ganacsiga ma kusoo shaqaysay adigoo aqoon kasta leh oo maxaa la yidhahdaa business soo bartay BBA maybe business administration oo kala soo bartay aqoon badan u leh laakiin aadan khibradii lahayn oo ama shaqaalinimo aad kusoo shaqaysay aan fieldigaas la xiriirin ama kii kusoo shaqaysay aad ay u adag tahay waxay noqonaysaa inaad try and error samayso oo markasta inta wax isku daydo haddana fashilanto haddana ku daydo haddana fashilanto wadadaas marka si aad uga leexato su-aashiid ugu muhiimsan marka sanadka aan ku dhiirigelina waxay tahay ugu yaraan waxaa la shaqaysaa business si aad business u furato businesskaas haddaad minimum 1 year ama 2 years la shaqayso errorkaagu wuu yaraana waxaad bilowdo insha Allah boqolkiiba boqol way guuleysanaya laakiin waxaan aqoon markaad bilowdo waxay noqonaysaa sidii aan soo kacaa ku foo kale tiro badan inaad markaas inta wax bilowdo hadana fashilanto si aan u fashilin marka anigu waxaan jeclahay inta badan kuna dhiir anigu waagi horan waa jeclaa shaqaalnimadeyda ani ilaa dhowr kun oo dollar mushaar soo qaat laakiin markasta waxaan ka jeclaa inaan business la shaqeeyo intaan non profit organization ama cid kale aan la shaqeeyla in business la shaqeeyo waliba oo yar yahay mushaarkeeda ha yaraada laakiin waxaad ka helayso khibradaad ka helaysaa ka muhiimsan waxay kugu dhiirigelinaysaa hadhowdii inaad business furato dabcan dadka qaar waxay ku fekeraan inay ganacsiga ku bilaabaan shuraako qofna wuxuu u fekeraa ganacsiga inuu ku bilaabo shakhsi ahaan labadooda dabcan markaad u fiiriso farqiga u dhexeeya muxuu yahay midkeesa fiican walaahi horto kan shakhsiga mar walba fiican wuuna dhib badan yahay oo kan shuraakada waa taqaanaa waa shuraako iyo qof markasto shuraakada way dhib yarta because wixii waa la sheer gareyn haddii khasaare imaatane dad badan aad ku wadaagaysin haddii faa'iido imaatane dad badan aad ku wadaagaysin dhibta ku soo gaaraysa waa yarta laakiin markaad shakhsi tahay khasaarada boqolkiiba boqol aday kugu dhacaysa dhibtiina boqolkiiba boqol aday kugu dhacaysa aad kula sheer gareynaysa malaha tan kale markii dhinaca kale laga fiiriyane kan shakhsiga aniga mar walba dhiirigelina wuxuu ku fiican yahay go-aanadeeda kaliga leedahay hal siyood wuxuu aragtaa ma fahan wixii markay shuraaka yihiin waxay noqonaysaa qofba fikir oo wixii lid isku yihiin maanta la isqabqabsanayo maanta la isdhibaayo inay noqoto markaas marka waxaan dhiirigelin lahaa qofka shakhsi iyo community inuu shakhsi u rangareeyo shuraakada way fiican tahay haddii loo helayo very clear policy oo dadka kala xadidayo cidda waxaan rangareynayso go-aamadeeda leh waxay kala cad yihiin soomaalida inta badan ma samayso inta badan soomaalida waxa waaye laablaka waxa ku sameeyaan wixii markii dhaqaaqan isqaqabsi bilowdo way kala haraysaa aad u dhib badan tahay meesha ku fashilmaysaa markaas waayahay dabcan soomaalideena waxaa inta badan lagu dhaleeceeyaa inay yihiin dad koobiga ku dheereeya markii ganacsiga la joogo oo maanta irid haddii aad halkan ka furto iridii mid magaca wax yar ka yara bedelan ama isla alaabtii aad keenaysay alaab la mid ah in ma aragtay la iibiyo marka koobiga aad noogu badanaa la yiraahdaa marka ganacsi qof kale laga koobi karaya ma guuleysan karaad isleeda horta koobiga soomaalida waa wax badan muddo badan ay soo taqiinay muddo badan markaan ku leeyahay hadda ka hor mar aan China joogo yaa nin oday ahaa oo aad u weynaa wax badan soo joogay yaa waxaan isku raacnay suuqan isku raaci jirnay waxaan naqaanaa marka meelaha warshadaha waa laga dalbado Soomaali kala imaanaysa oo kullee Soomaaliga iga horeeyay ama hebelka iga horeeyay orderkiisii tus inta badan marka way yaqaanaan kamaniyaasha ma tusaan way kala qariyaan unless yihiin kamani iska yar oo ay sameysan suuq rabo oo wixii inuu iibisado iska iibi uu rabo raadkii marka raacan waxay dhahan voice-ki iga horeeyay tus si aan ana order u sameeyo ana marka tii la yaaban yaa ninkii odaga ahaa weydiiyay waxa Soomaali waxaan ku kalifan wuxuu yiri waxaan wax hadda bilowday ma xilligii dawladda siyaad barre sheeko oo iga sheekeeyay wuxuu yiri waagii dawladda siyaad barre aniga koonfurteenan aad waxaan ugu xirnaa jirnay inta badan Talyaaniga oo kale wadamada ku xirnay ee ku jirta wuxuu yiri xaggaasaan anaga ganacsatay waxaan u doonan jirnay daawadan ka keeni jirnay suuqa bakaaraha aan keeni jirnay halkaasaan ku iibi jirnay wuxuu yiri marka sheeko wuxuu iga sheekeeyay aad iga qoslisay wuxuu yiri waan China tagay oo ganacsi u tagay yaan hotel ku degtay hoteelada marka
markii laba qof oo Soomaaliya ganacsatada hal meel iska imaato ku imaato hal qola la share gareeyo oo laba sariir taalo si costiga loo yareeyo nin Soomaali ah Muqdisho iska imaanay in qol isla kariisan u dhahay laba sariir noo taalo Soomaalidu waxay sameeyaan orderka aad iska kala ilaalisa wuxuu way ilaashadaan hadii kale wala kala koobiyana waxaad keentay laga dabkeen wixii maalintii dambe aan hotelka isla deganinkii yaan xanuunsaday dhakhtar u tagay dhuntaan halkaan meelaha laga qabtay dhakhtarkii marka u tagay daawo fiican oo isoo qoray hal sharoobo isoo qoray dhahay sharoobada $50 ay joogtaa u dhahay waay $50 Soomaali markii la joogay xagga waa lacag aad u badan ah sharoobo ka bixiso laakiin aniga ganacsada aan yiri caafimaadkayga anaga taxdiraa meel Yurubna waa joogaa daawadeed wixii tayo leeyihiin wax tayaalaha liisuusi sharoobadii markuu isoo qoray waa isticmaalo yiri intii soo hartayna boorsadii qolka ETL meel kale ku ritama leh yaan ku rito yiri intaan magaalada ku maqnaa ninkiina nin qish gaaday waayina wuxuu yiri ninkaan wax walo sambal oo wata raadi waay boorsadii furo yiri sharoobadii dhakhtarka isoo qoro kala soo baxay isla markiiba waa la dafo yiri waa la orday warshadu intuu u geysto baasha ma helaysan markaas uu yiraahdo ninkan kulay wax fiican u haystaahe hal container iga dalab marka wuxuu yiri hal container ka dalbad anima ogi waxba ma ogi waa isu celiyay boorsadii u gashtay anigana wixii iska isticmaalay markii ay dhamaaday safarkaygeena waa iska soo tagay inta waxba ma ogi yiri Muqdisho ku soo laabto dhahay muddo ay ka soo wareegtay xilligii 6 bilood yowninkii imaado yiri soo sharoobadii wada kaas wuxuu yiri niyo aan hadaan markaan aan isku arkaynay Talyaaniga sharoobada soo gadatay meesha geesar markaas aan ku yiri sharoobada noocee ah sharoobadii soo baxshan markaas aan ku yiri sharabadan inta ku arag musan balad aantii wadatay anoo soo qaatay haddana waxay ka qaataan la wixii wax qaali ka batwa cid gada kartaa ma leh talakeen markaas aan ku yiri shambalkan dhakhtar aan soo qor wax sambal wata ma ahay waagal dhakhtar ay soo qoray waxa aan isticmaalay wax aniga sambal ahaan u watay oo soo iibsanay ma ahayn waagal marka koobigu wax hadda bilowday anaga maanta waxa aragnaa xilligan waxa aragnaa Muqdisho bas oo 100 jaamacadood ka badan ka furan yihiin 100 jaamacadood hal xabo oo successful noqotay ku bilaabatay Soomaalida waxay jecel yihiin intay wax ay taray garay lahaayeen in ay dhahaan waxaan wax guuleysarta ma yihiin ana islaayada bas aan daba socona jaamacadaas hal xabo guuleystay in ka bilowdayna laga yaabaa tukal ku xisay u wadaan daba qolay dhaafiya wax guuleysana hadda yimid guul dareysanaysa ma kala taqaan tiradii ka batay waxa la mid ah isbitaaladii luuqa sod marto intaasoo isbitaalaha ka furan waa wax la kala koobi karay waxay soo saarayaan markii la arkay iyo baa lagu daysaday waxaan arkaysaa iyadoo isbitaalada intaad aragtay la eegyihiin yaa weli dad kale isbitaalada dibadda u aadayaan xataa ma gartaan kadib kuwaana wax tayo leh dibadda looga maarmo darabta wadnaha bas xooga saar waxay xooga saar bas ma gartaan jaamacadaha kala la mid iyadoo weli intaasoo 100 jaamacad ka badan ka jirto yaa weli hadda jaamacadaha dibadda loo aadayo wax kasta saasi u halay waa dad marka aad u kala koobiyeeyo aan waxaan dhihi lahaa marka ma guuleysan karaa ganacsi la koobi karay waxaan dhihi karaa hadii ganacsi uu ku bees gareysan yahay ha guuleysa door laakiin meel ma gaarayo waa inuu ganacsiga adiga uu ka imaada aad jeceshahay ku raaxaysanayso maxaa la yiraahdaa meel kasto dhinac kasta ka taqaan markaad wax koobiyeynayso waxa laga yaabaa aniga hadda kale electronics wax baan iibinaa tricks badan oo tiro badan oo isticmaalno aan ha jirto ma fahansano qof hadaa tiraa markii iska orado oo tiraad waa soo iibsana waa ka ag furo waxa laga yaabaa in dukaankayga inuu buuxo kaageena ay hal qof soo gali wayso sababtan wax kale ma ahane saan u kala fahansanahay waxba kala duwan aan marka waxaan ilaha horta qof markuu ganacsi rabo wax uu jecel yahay waxay rabaan ha ahaadaan mid ka ag furan dooraba ha ahaado waxaad jeceshahay aad wax barka keeni karto meesha ugu dambaysa aad la tegi karto raadi marka hadiiba ganacsi mid lamida aad furayso waa inaad ka duudid waxoon waa inaad ku kala bedelnaataan example hadii for example ana had electronics iibiya electronics waa badan yahay ganacsi markii la furaayo wax lagu bees gareeyaa hadii aadan adig fikir aad oo soo kugu jirin oo isleedahay meeshaan fikir ka dhax abuur isleedahay for example area-da aan degan oo kala imaatay waxa istiriyay fikir aad hore u wadata ma jiro laakiin area-dii inta cabirato wax isleedahay waxaan ku soo kordhisaa okay
kaygo kale markaad ku iibinayso anigoo kale hadda electronic waa iibiya laakiin maxaan xoogga saaraa Samsung iPhone mobilada iPhone aad xoog u saaraa markaad iga ag furanayso inta dukaankayga fiiriso waxa samayn kartaa ninkan kombiyuutarada kale xoog ma saarin printerada kale xoog ma saarin xoogga saar أنا مركي كمبيوتر ليه maadaama aan computer xoog u saarin printer iyo waxaas iyo wixii la xiriir xoog u saarin hadii la weydiyo waxaan u qasbanay inaan dukaankaas halkaas ka doono way dhow yahay waxa la mid ah inaad meeshii aan iPhone xoog ka saaray Samsung aad xoog ka saarto laakiin markii iPhone xoog ka saaray adina iPhone xoog ka saarto wuxuu iPhone xoog ka saaro wixii noqonaysa wixii wax hal macna isku wada yeelanayo wixii anaga isku wada maxaa leedahay hal fiil isku jirno electronic yaamina wuxuu iibi karaa electronics waxa hoos madaxa kamida hatta waxyaaban home appliance kale yiraahdo ama AC-yaasha ay kamid yihiin fridge-da ay kamid yihiin qasaalada ay kamid yihiin idin naftirkeeda waa hoos imaataa fursada ku jira fursada marka waa inaad ka dhex raadisaa urni meeshan inta yar maxaa ka dhex maqan waa ninka dhex heli karaa inuu ayna ka dhex raadaysa marka fursad raadinayso waay waxaan rajeynayaa daawadayaasha inay si fiican u fahmeen arrintaas iyada ah dabcan waxaa jira in ganacsiyada laftigiisa ganacsiga dhexdiisa in maaragtay la isku khiyaano ama la isku xasidnimeeyo aan si kale u dhigno weli ma la kulantay in lagu khiyaano ama ganacsi lagu xasidnimeeyo ni horta Soomaalida inta badan waxaan rabnaa daawadayaasha raba inay ganacsi bilaabaan inay wax ka bartaan arrintaas ayada Soomaalida inta badan u sameeysan yihiin way hatta dad cadow isku aad maqashaan inta badan waa ganacsatada horta ganacsi ama ganacsato guuleysta hada aragto inta badan waa dad qalbi fiyo waxa la rabaa qof walaalka isla shaqaysanaysa ganacsiga kugu la jiro hatta inta support garay karto oo toosi karto inaad toosi support garayso yaa la rabaa laakiin bilcagsigeeda inta badan ma dhacdo aad isku waxastaan waxaan la hadda kala qarsamaynin aan dukaankayga hadda imaato 100 kaamira soo qaado duubo sawiro waxaan wax suuq aan ka keenay wax la kala qarinaa ma si fiican laakiin dad waxa jiro in qofkii kan saska qab maanta dhan iska ka ilaalina itemyada ilaalina item waxa ilaalina boqolaal qofood ka iibsata banaanka ku haysata waxa ilaalisa horta way in meesha lagu sawirtay in banaanka laga sawirto isku mid waa marka Soomaalida waa dad intaan aniga arkay waliba xasinimo in ku baraan isku dayay in Ilaahay qalbigaaga hagaajiyo oo iska toosnaato oo fiicnaato ma ahan aad in xasinimo ku baraan qayaanadan idana meesha ku sii jirta hadda koraan xasuustaa qisa idana aad u muruga badneed oo dhacday in qayaano lagu guuleysanin businesska oo qayaano ku guuleysanin way waagan China joognay xilli naga sii horeysay shirkad leega sheekay in ka dhacday nin China jooga waxa la yiri la soo hadlay waxa la yiri niyo dowlad deegaanka Ethiopia oo Soomaalida yaa wax ka go'aan la yiri bitri oo muruudi ku sawirnaa jiray dadka xasuusta oo aad loo isticmaali jiray Soomaalida oo tooshashka iyo raadiyaasha waxna loo isticmaali jiray yaa la yiri waa ka go'an yahay dowlad deegaanka hadaa ka soo gaarsiin karto maadaama ay ganacsato tahay China ay joogto ka soo gaarsiin imisa quantity amal loo baahan yahay waxa la yiri 2 container amal hore ka dhamaanaysa daakento ninkii China waa fogtahay 2 months oo container ka soo socda wuxuu yiri nin hadii waxa hadda aad degdeg loogu baahan yahay China way ugu fogtahay may China waa fogtaa ma dhihin ka damba qaldi doono China ka soo raray kamanigaas wuxuu ku yeelay meel Shanghai yira way Shanghai ka soo raray 2 months markay qaadanaysa ninka iska daacada waa ilaahay iska ahaa 2 container soo rartay uu soo diriyay markii mid kale story-ga maqlay way China waa fogtaa 2 months qaadanaysa containerada inay ku imaadaan Soomaaliya xeebaheeda nin kala maqlay asiga uma sheegin wuxuu siiyay ninka hortiiska faa'iideyso waa qayaano way suuqu asiga haysto hortiiska faa'iideyso wuxuu sameeyay falaydo soo qaatay soo raacay Dubai u imaaday Dubai tuwaykiisa soo socotaa container Dubai laga soo diray because Dubai Soomaaliya isku dhow yihiin way Dubai u imaaday Dubai way ka yara qaarisan tahay China because alaabtii China laga soo qaaday Dubai la keena waa la canshuura and then faa'iido laga sii raadiyaa kadib hadda la ka soo qaadanaysa wuxuu siriyay maadaama wixii wax go'an ay yihiin wali aad Dubai ka kansaday yaa lacag badan ku heli kartaa ninkaan ha iska soo daahay wixiis way wuxuu sameeyay Dubai doo imaaday 2 container soo rartay oo isla bateriga same wuxuu ka soo dejiyay Berbera Somaliland la soo dhaxmarsiinay dan dowlad deegaanka saas loo gudbinay labadiisa container 2 weeks buu imaadeen oo gudbin ki kalena Ilaaha uma qan
xilliyada xilli roobaad ay ahayd uu kusoo aaday hadda jidadkan samaysan oo laameesha khatarta iyo ilaa iyo jigjiga tagay ma samaysanin xilliga ninka marka waxaa lay sheegay xilli roobaad aad roob ku biyo dhulka dhigeen intuu kusoo aaday markii xuduudkii meelaha ay ku gudbayeen jidad laami ahayn intay mareen iyo dhulka la go-ay labadiisii gaari oo laba container wadato inta ka bixi inta geli way mari wayse intii lala rafanay 20 beri bil ku dhawaad ninkii kale iska daacad ahaa kontaynariisa waxay kasoo degeen berbera and then mogtahay waa la isku waramaa oo waxaa la yidhahdaa new baabuurtii hebel idinka horeysa ama baabuur idinka horeysa yaa meel hebel wadda hebel ku qataaran ama ku halaysan waddadaas waxbaa ka roona la mari karaa ninkaasoo iska daacadan weli ogeyn ninkaa inuu bitriyaashaas keenay 2 container oo keenay aan ogeyn baalidii soo degteen laakiin waddadiisa saxa loo marsi waxaa la yidhi wadda hebel aad biyaha ugu badan yihiin deeqada ugu badan yihiin dad horaa ku qaldamay tan hebel hala maro si nadiif ugu tageen asoo weli waxba bitiri meeshii la geeyay suuqii gashtay one week buu kuma qaadan wixiisa dhan waa dhamaystirtay weliba faa'iido fiican oo ku dhifsaday oo saaxiibka ninkii markuu dhamaystay kadib carradii dhulkii qalashay baabuurtii soo baxday iyo meeshii kaan de safarkaas soo horreeyay kaana raqiisan yaa imaaday yaa kuwaagii kam dhahaa marka cid kam dhahday ma leh khasaare aad u weyn oo gale tiimkaas waxaas dhan sameynaa China isla joogin xilligaas China joog wax badan ay ka soo bartay khiyaanada la isku sameeynayo iyo xanuunka la isku sameeynayo waa ka soo tagay hadda Muqdisho jooga Muqdisho tii intuu ka darana ka jirto waxyaabaha qaar dad kale ma wadaagi karin laakiin aad la isku xanuujiyaa waa gartay dabcan si guudba xaasidnimada iyo khiyaanada laguma guuleysto dabcan fariinta saas laga fahmaya waayahay aftaa waxaan ognahay shirkad walba oo guuleysata shaqaaluhu lafdhabar u yihiin guushaas shaqaalahana dabcan kambaniyadu waxay ku kala xushaan hadba qaabay u xushaan Cabdifitaax ahaan qodobada shaqaalaha ku xulata maxaa ka mid ah maxaa isleeyahay oo lagu xulan karaa qofka horta mogtahay markii shaqaale la yiraahdo sida Soomaalida ula dhaqmaan iyo sida saxda way kala duwan yihiin waxaa la dhihi karaa almost waa kaaf iyo kala dheeri shaqaaluhu waa human being waa bini aadan at the end of the day dadka kambaniga adiga lahayd rangareynayo wax soo saara waa ayaga adiga 90% ama ka badan in kambaniga ka maqan tahay laga yaabo wax ka dhacada warkaayo laakiin dadku wax toosinayo wax habaynayo profit ka soo saarayo waa ayaga ani marka qaacidaan aaminsanahay jirto waxaan aaminsanahay sida shaqaalahaaga aad ula dhaqanto iyo kambaniga ugu ekaanaya haddaad soo dhawaysato ka taxadarto si fiican ula dhaqanto kambaniga inay leeyihiin lahaansho aad dareensiiso soo dhawaysato kambanigaaga damoor oo guulaystay noqonaysaa taa bilcagsigeeda laakiin Soomaalida way ka duwan tahay an laakiin Cabdifitaaxaan qaacidadan ku dhaqmo waxay tahay tiimka isla shaqeyno inay shaqaalihiin ma aaminsan waxaan aaminsanahay tiim wada shaqeyno meeshii wada leenahay wax kasta inaga wada dhaxan si kasta wax isku fahmi karna inay yihiin inta habisna ma ahane waxa kale oo aaminsanahay inaan u diyaariyo in berri ganacsato ay noqdaan oo berri ka maalin levelka aniga aan joogo waliba level ka fiican ay noqdaan isku filnaadaan way qodobada markaas as leedahay waa laga fiiriyaa qofka marka uu kambani ka shaqeynayo oo kale kuwa ugu muhiimsan waa kuwii niyo horta waa tayada dadku isku tayama muhiimadu waxa waaye kula shaqeynayo qodobka ugu muhiimsan horta number 1 waa amaanada wixii waa hanti waxa la hayaa amaanada hadduu soo qofka lahayn wax kale lagu qaadan karo ma leh dadkan isku mid maahan number 2 waxay soo gali karaan mas'uuliyadda amaalada xogaa mas'uuliyaddu isku dhow yihiin laakiin mas'uuliyadda idan waxa waaye in wax kasta mas'uul wixii adoo xafidayo waa ammaan ay ku yihiin yaa hadal mas'uuliyad wax iska sii saari kartaa wax in qaldamaan ama in wax ay wada xun ay maraa inaad ka ilaaliso mas'uul iska dhigto meeshii qofkii mas'uulka ahaa aad noqoto number 1 waa amaanadii number 2 waxa waaye mas'uuliyadda number 3 waxa waaye dabeecadda qofka aad ay muhiim u tahay at the end of the day waxa la dhaqmaa ama la macaamilo waa bini aadan qofka marka inuu dabeecadiisa furfurnaantiisa iyo aad wanaagsan tahay saddexdaas hadii laga helo
inta kale waa uu baran karaa ama waa la bari karaa ama waa waayahay ganacsiyada dabcan inta badan waxaad maqashaa ama la maqlaaba ganacsi guulaystay sidoo kale ganacsi fashilmay tan fashilka waa usoo laaban doonaa laakiin ganacsiga maxaad is leedahay ganacsi mid guulaystay maxaa ka dhigi kara nala wadaag dhowr qodobaad is leedahay ganacsiga waxay ka dhigi karaan mid guulaystay horta Ibraahimow ganacsiga waxaa la dhahaa waa sidaad risk u qaadato ganacsiga sidiisa waa risk haddaad tiraahdo maanta inta ka ilaali inaad meel ka bixin yaa laga yaabaa number one horta qofka ganacsiga galaya waa inuu risk qaataa risk weliba high the more risk high qaato the more sii guulaysato oo hore u socoto haddaad tiraahdo marka waxbaan la ilaalinayaa intaan ka ilaalinaya example yaraan ku siinayaa geesinimo u baahan yahay ganacsiga iyo riskigaas inay qaadato tusaalaha ugu fiican communigayga hadda Bluestar aan kusoo qaadana the Bluestar xilligan bilaabay waxay ahayd 2020 xilli aad u adkaa oo anoo isku filan intaan shaqadeedii ka soo tagay yaan ganacsi u soo go'ay anoo weli ganacsiga bilaabeen weefkii darnaa Soomaalida wada xasuusato oo ahaa forex yaa waddanka soo galay intii aan ganacsi ugu talagalay dhan forex ay qaadatay anoo isdhahayo waxaagii laba jibaaro adoo wax fiican haysto ganacsiga bilaabo marka waxa ku jirta dadkii forex ku jabay aad ugu jabaan ku jiray wasiir geysay waliba ziir geysay shaqadiina waa ka soo tagay markaa shaqa ma joogin adigoo shaqadii ka soo tagay oo wax yar haysto intiina ay qaadatay inta haystay ganacsi waa ku bilaabi kara laakiin guri wax ay galay inaan laba jibaarto waxna ganacsi ku bilaabo waxna guri iska dhisto guryaha dhismaha guryaha aad u jeceshahay marka geesinimaday aan rabaa inaan tusaale soo qaato wax markaas ku jaafay dhan lacag 10,000 aan helay markaan aan business ka bilaabay 10,000 business ama electronics ama markaa horta online ahaynay oo electronics business ma iibinayne waxay naga qabato oo online kaas lagu iibi karo yaan ku iibinayna xafiisna waa noo furnaa 10,000 marka waxaan sameeyay geesinimada waxay taraysan ku sheegay 10,000 haddaan dhihi lahaa cili dhinac kasta ka ilaali waxaa laga yaabaa inay sii cimriso dhowr sano gaartay laakiin waxba aysan ku darsoomin laakiin meesha idhaafi wayso marka geesinimadan qaatay waxay ahaaday waxaan sameeyay 10,000 horta 2,000 oo ka mid a boorar bisan kusoo daabacay waaya intaan science u tagay yaan feasibility badan oo xafiiskii dhan la buuxinayo si meel kasta sawir lagu galo marka aan waxa aaminsanaa company-ga magaciisa inaan gado horta meel gaarsiiyo kadib aan u soo laabto ama inaan profit sameeyo ama inaan meel kala gaaro 2,000 oo kamid markaan ku iibiyay Sainjet ee uu soo iibsaday boorarkii iyo feasibility aan badsaday yaan hadal kun kale wax iga baxday legalization waxa la yiraahdo sharciyeynta ama nootaayo ha noqoto documentigeena ka soo qoro oo $200 qaadanayso dawladdii oo laysankeeda $200 u qaadanayo bangiyaasha wixii la furo waxaas waxay iga baxday kun kale meeqay soo hartay 7,000 ay soo hartay 7,000 isla markaas u furnay online wax ku iibisku bilawnay waxay ii imaaday qolooyin asal 24 dhig jiray oo markii dambe magaca asal waxa loo bixiyay waa si fiican asalka waxay qabanayeen waxay ii imaadeen waxay yiraahdeen kamaniyaasha waaweyn oo magaalada ana markaa waaweyn la arkay dhowr week isbuucna waa ku jira wax kale ma ahane feasibility 2,000 aan ku sameeyo badnaa iyo dad badan oo asxaabta social media ka soo sawirro badan ku kala social media saad u qabsanay si fiican waxay ii arkeen kamaniyaasha waaweyn magaalada ka mid ah ii arkeen waa moogtahay wax hoos ka brandiga gadmay waa gatmay way in brandiga sii gadan wali waa rabaa si fiican waxay yiraahdeen waxaan qabanaynaa tartankaas oo kamaniyaasha waaweyn oo bangiyaasha iyo kamaniyaasha waaweyn ay ku jiraan magaalada ma ka qayb gali kartaa ma ka labayn waxaan waa ka qayb gali karaa haddaan qiyaasay marka lacagta fee la iska qaado iyo tan kale ciyaartooyda iyo transportation iyo qabaha ku baxaysa idan $1,000 ay noqotay kun iyo xoogaa ay noqotay way waa bixiyay way wixii dhan ba lix ay soo hartay
lixdii soo hartay yaan oodharro yaryar iskaga samaystay tartankiina waa ka qayb galnay tartanka ka qayb galnay kamaniyaal waaweyn yaa groupna lala gelsho oo daabshiil ku jirto oo intaan ka xasuusto kamani weyn oo Pizza House la yiraahdo oo la yaqaan oo ku jiro Premier banki hal badan ay ku jiraan waa garta ciyaartooy fiican oo iska soo xushto ciyaalka xaafadda raadsadeen waa la imaaday kamaniyaasha waaweynaa intooda badan waa garaacay markii si fiican u dhisay magaaladan si fiican u qabsanay maalintii dambe laakiin inside wax ka jira lama ogo oo kaliya brand dhaqmaaya dad adiga malaayiinta kumanaan xataa ma malaayiin haysta because kamaniyaashii kale waaweynaayo millions ku shaqeynaa xataa ma soo haweysan waxyaabaha qaar aan haweysanay laakiin annan waxaas raastan waxaas qaar haweystay maalintii dambe yaa nin saaxiibkaya waxaan soo raacay daabshiil lacag waxba deynoo ka qaadanayay ani iguma jirto cidaa deyn ku siinayso maxaa la yiraahdaa deynaad helaysaa lacagna ma haysto eber igata ninkii wax iska process garaysan daabshiil banki markaa imaaday qaybta Qur'aan kornay horta hore laga aqoonsaday qaybtii investmentiga laga bixin hore laga aqoonsaday wanaagada Blue Star ma ahano warninka groupka ku jira xas nafta oo keenay ma warinu company weyn waxaan ku yiri company weyn adooyahay ma deyn siisaan oo investment siisaan war diyaar waa warqadaha bas ma keeni kartaa meeshii wax badan ay ku fududaysaa intaan sameey because wixii gudaha ka jiray lama oga mogta laakiin ani waxaan u dhaqmay gudaha way kaaga jiraan laakiin waa inaad u dhaqantaa in banaanka waxa kaaga gudbay fariin absolutely waa in fariin fiican ay kaaga gudubtaa fariin fiican aan gudbina war riskigan qaatay oo waliba very high ah 10,000 lacagta ugu karto inaad advertisement iyo maxaa la yiraahdaa marketing qabac iyo samayso $100 iyo wax noocaas dadka sida caadiga ah loo gooy karaa laakiin lacagtaas la 50% aan gooyani on marketing iyo feasibility aanu sameey si fiican nimanka waxay yiraahdeen warqadaha ka soo diyaarso war serious ma idin wala soo diyaarsa lagu yiri maalinta dambe ku laabay warqadihii wixii soo diyaarsay investment soo codso hore leega si waliga approve garay waliba waxa la qabtay sanad iyo 8 bilood inaan ku soo celiso lacagtaas lacagtii ugu horeysay daabshiil aan uga mahad celinayo in ilaa hadda credit fiican ay yaalo sidii ku bixi lagu yiraahdo ku baxsh laakiin lacagtooda ku shaqaystay waa sax ma fahmin waa sax macnaha marka su'aashaadii ahayd waxa waayeen waxaan wax u baahan yahay geesinimo haddaadan geesinimo iyo go'aan iyo riskiga aadan qaadan karin 100% meel kama bixis inta marka aniga waxay noo sababtay inaan muddo yar oo kooban ku guuleysano oon kamaniyaasha waaweyn aan ka daba tagno ka waran waxa aad ka ganacsanaysid inaad ka run sheegtid iyo habka aad ula dhaqantid macaamiisha iyada laftigeedu kaalin intee leeg ay ku leeyihiin in ganacsigu ku guuleysto su'aashii hadday camal daba socotaa ganacsigaaga nin wax yar oo qayaana inta ku jirto meel bangaaray ganacsiga waa ina 100% aad ka run sheegtaa waa in qofka customerka 100% aad runta u sheegtaa waxba aadan ka qarin example anaga hadda telefonadan iibino waxay u badan yihiin brand new oo warranty leh oo qofka markuu activate gareysto oo furo qofka ugu horeeyay oo isticmaala telefoonkaas uu noqona warrantygeena oo noqona aniga bas ma ahan haduu qofka iska safro ama Europe aad ama UK aad ama maashi American aad meel kale u aado haddii cilad ka soo gaarto xarunta Apple ugu dhow intuu tago loo cilad bixinayo warranty ugu jiro taa bedelkeeda marka waxa jira telefoonadii hore kale oo kuwa hadda socdo kale 15 iyo wixii ka horeeyay 14 kuwa kasi horeeyay waxa jira aan suuqa ayagoo brand new aan laga helin ayagoo rifaabo dib loo soo cusboonaysiya laga helaa warranty male aniga customerkeena teamkeena waa tababaran yihiin customerkeena weligeen been uma sheegin mana u sheegi karna macquulna ma waa inaan dhahnaa kan waa rifaab warranty male anina kuma sii karo kamarigii soo qaadan kuma sii karo sidii sadaq ku qaadanayso iska baroobeynaysid soo dhawow kan waa brand new qof isticmaalo oo kii ada ugu horeeyo maxaa la yiraahdaa hal sano waa damaanad uma haysataa runta shay walba sidoo yahay hada runta ka sheegin ganacsiga meel ma tag aniga runtaas u sheegnaa runtaasna suuq ku joognaa bedelkeeda suuqa waxa jiro oo aad u buuxo wax ku kalifaani ma aqaano telefoonadaas oo kale uga dhigayo qofkii brand new dhahayo waa brand new waa cusub yahay dad kitaab u keento tirada imar waa ku marayaan qaarkood waxay ka taarto aqoon darro oo ma kala yaqaanaan brand new iyo refaabka iyo second waxaabas ma kala yaqaanaan wax kastoo si jilan oo la soo package garay brand new u yaqaanaan qaarkood aqoon darro ku kalifayso qaarkoodna ayagu og
iyo dadka sanka ka geliyaan markaan waxaan aaminsanahay sidiisaba business qayaana ma lahan runta ayuu leeyahay in runta ku dhaqanto waayahay telefoonada dabcan dhowr stage inay leeyihiin anoo sheegtaa deer isla su-aashaasaan kusii daba soconaynaa waa brand new oo wuxuu leeyahay 1 sano oo warranty ah refaabka iyo noocyo kale ma jiraan waa dhowr category brand new-ga ugu horeeyo brand new-ga waa sidii shirkad u soo saartay lama furin lamana activate garay activationka waxa waaye waa ina shidaa oo internet ku xirtaa marka shido internet ku xirto waa activate garay isma telefoonkaas brand new marka waxa waa midaan weli la shidin la furin la activate garay internet lagu xirin qofka isticmaalay ama furay ugu horeey adiga waxa ku xiga refaabka waxa waaye telefoonadii la soo isticmaalo dib loo soo celiyay ya shirkadii lagu celinaa ama Apple ha noqoto iyo waxa jiro external sources oo Apple ka baxsan ayagana refaab garay refaabka waxa waa battery ka soo ciladoobay hadii kamarada ka soo ciladoobay hadii item oo telefoonkaas ku jiro soo ciladoobay in laga bedelo la soo cusboonaysiiyo batterigii haduu 80% meelahaas percentagekiisu uu maray ama 90 uu maray in 100% laga soo dhigay mid kale la soo geliyo kamarada dicilad ka jirta la soo bedelo maqalka iyo microphone-ka waxa soo wax ka jiraan la soo bedelo hal bedelo muhiim yaa soo bedelay iyo waxa lagu bedelay noocyada yihiin Apple hadii bedesho kale in originalkiisa laga yaabo laakiin kamaniyo kale badan oo Amazon kamid yihiin oo kamaniyo kale kamid yihiin oo soo rifaab garaa jiro kuwaas ay waxay gelinayaan marka had buu u raqiisan because wixii lacag laga raadina battery fake iska oo markii aad soo gadato maanta iska daadanayo kamarada microphone wixii dhan fake in lagu soo bedelo hadba cidii soo rifaab gareysay rifaabyadu way sii kala quality badiyin marka brand new markii laga soo tago rifaabkaas ku xigo rifaabka waxa ku sii xigo second hand brand new markii laga soo tago rifaabkii brand new mid kale u dhaxay jiro oo la yiraahdo active ka waxa waaye lama soo isticmaalin lama soo rifaab gareyn laakiin waa kii cusba oo somehow la activate garay ama qofka loo baroobeeyo ama cid intii soo isticmaashay hal maalin laba maalin laga soo celiyo ama sambal ahaan meel uu yaalo waa la activate garay gorma la activate garay it can be 1 month ago 6 months ago 1 year ago marka la activate garay dabcan warranty-ga wuu yaraana hal bil noqon kartaa hal bil ka hor in la activate garay 6 bil ka hor in la activate garay noqon kartaa sanad ka hor in la activate garay noqon kartaa active kaas la dhahaa waxa ku xiga brand new iyo refaabka u dhaxay marka waxay noqonayaan brand new and then refaab ay noqonayaan waxa ku soo xigo brand new active ku xigo refaabka ku xigo and then second hand afar category noqonaysa waayahay si fiican aan rajeynaya in daawadayaashu u fahmeen arintaas waxaan ka soo hadalnay ganacsiga maxaa ka dhigi kara mid guuleysta waxaan u imaanaynaa su'aal sheegtoo ah ganacsiga maxaa ka dhigi kara mid fashilma ama guul dareysta si kooban ganacsiga mid guul dareysta ama fashilma waxa ka dhigi karo horta kow markaad ganacsi ku soo gasho lablakac waxa emotional qofka inuu war hebel balacagu sameeyay shalay eber uu ahaa maantay meesha soo maray war ganacsi boomena gal adigana markaad ku soo gasho dardarna uga baxaysan because wixii waxa soo darasiisay taqaano aad ku soo gashay kii ma ahan ganacsi kasto degdeg lagu bilaabo degdeg example waxaan ku siinaa hadda wadada ma kala muqarrama anaga inta badan joognaa inta kasto xarumo kale meel kale aan ku leeyna wadada ma kala muqarrama irdo lagu ganacsado kala soo baxo irid waxaad arkaysaa yar oo ka kooban oo lagu leeyahay $3,000 yaa bishii la kareena sanad ama 2 sano waa laga hormarina kadib decoration 20,000 ku dhawaad oo ka sii dhameeyay marka 2 sano laga hormariyo decoration asaarto 50,000 7,000 maraysa goorma lacagta soo celinaysa bishii $3,000 oo kire ah balaasha $100 oo maxaa la yiraahdaa koronto ah balaas shaqaalo oo 5,000 iyo 6,000 isku tagayo ganacsiga hadda shaqayso dadaasho intaas inta ka bixiso faa'iido ma keeli kartaa mase minus ku jirta lama soo calculate garay ina fashilmo marka ganacsi waxa dalaq everyday waxa aragnaa warni waxa isma bixinayaan nina dalaq dhahay ma yaqaano markuu dalaq dhaho arkaysa 6 months ama 1 year meesho la xaraashay meeqo qasaaray $100,000 ama $8,000 qasaaray waxaas marka waxa keenayo calculation la'aanta khibrad la'aanta degdeg waa ina wax kasto waa ina ogtahay ganacsiga hadda $3,000 profit bishii aad ka soo saari karto meesha aad degantahay karideeda waa in 500 ka badan because 500 markii karidii tahay $200 kalena korontadii tahay ugu yaraan 2 qof 3 qof ka shaqeynaysan iyana $200 kale ay tahay adiga 3,500 2,000 ka baxayso kuna profit ku soo baxay waa in saas u calculate garaysa laakiin profitkii dhamaan 3,000 soo baxay hadaa tiraahdo 3,000 kiran ku bixina
oo maalinsi kugu noqoto dhowr qof oo shaqaale ah oo maalinsi kugu noqoto korontadii oo maalinsi kugu noqoto internetkii maalinsi kugu noqoto qofkii meesha tirtiray waxay noqonaysaa inaad 6 bilood hal sano isii celiso minus ku jirto lacagteeda 100,000 200,000 soo yaraato 100,000 imaato markay 100 imaatan aqoon qaado tiraan inta ka badan moodi karo iskaga baxaya fashil noqonaysa waxyaabaha marka la daraasayn emotionka qofka qaado degdeg lagu galo degdeg looga baxaa taas inta badan keentay in lagu fashilmo waayahay taas waa ka soconaynaa aftaaxu nin odaya hadda kor waxaan ka maqlay in ninkaa hanti badan boos ayaa kaa dabageeyay qodobkaas dhulka markaan kasoo gudubno maxaa soo labeeya oo qofka maanta raba inuu ganacsi bilaabo ama dhaqaalo sameeyo yacni aragti ahaantaada maxaa soo labeyn kara horta qodobkaas nafirkiisa ninkaas odaga aniga ku haysta dhul ay kaa dabageeyo dhulkan laba u kala qaada qofka hadduu yahay qof ganacsade iyo hadduu yahay qof mushaare oo shaqaale ah way kala duwan tahay qofka mushaaraha oo shaqaalaha oo mushaar u soo dhaco 100% waxaan kula talinaa dhul iibsado waxaan u leeyahay dhulka iibsasho qofka markuu mushaar yahay inta badan lacag ma kaydin karo ma sayb garay karo marka dhulka lagu kaydsadaa dhuntaad isqabanaysaa mushaarkeeda qaar ka jaraysaa bil walba laga jarana and the end of the day dhulkii adaa iska leh qofkaas aadan ugu talinaa laakiin odag waxaan ku haystaa markay ganacsado tahay dhul ma ku anfacayo because lacagtaas dhulkaaga jirto ganacsiga lacag ka badan uga soo saari kartaa dhulka lacagta inta ku darsoonto aad u yartaa example hadaan kaas iyo hadda ka hor anigu guri aan lahaa maraan shiiday yaan soo iibsaday guriga anigu waxba ima soo saari jirin waxbana kuma darsoomi jirin lacagtan ka soo saaray hal bil gudaheed yaan guriga kale ka shaqay 100% ka shaqay marka qof ganacsade dhul ma anfac lacagta dhulku ku jirto shaqo u baahan in lagu shaqeeyo lacag laga soo saaro taa marka odag la yiraahdo labada kala qaada dhanka ganacsiga ugu soo horjeeda lacag kasto ganacsiga u baahan inaad ama barnaamij kale ku furto ama si hormariso ama hor u socoto lacagtaas lacag kale ku soo saarto xilli aad ka maarto marka ganacsi ku jirto xilli lacag aad ka maarto keed ku jirto marka dhul ku iibsan kartaa laakiin adoo wali investment u baahan hor u soconayo inaad dhul lacag geliso aniga ganacsada ahaan marka teamka ganacsatada ahaan waa ka soo horjeeda laakiin qofka soo shaqaala waa kula tali lahaa inuu because shaqaalaha markuu dhul iibsado laba ka dhigto saddex ka dhigto at the end of the day markuu shaqada ka soo tagay ama ganacsi uu aadayo ama wax kale uu qabsanayo wixii intuu qaarna soo iibsado ama wada iibsado iyo wax fiican ku bilaaban kara macna u sameynaysaa dadkan hadda maanta aad aragto oo millionaire waxa laga yaabaa in lacagtiisa million ay dhaftay oo billionaire uu yahay asakaaga baahi badan maantay qof kasta uga baahi badan lacag because markasta baahi waxa u muuqata investment u baahan wax soo invest gareyna business ka mixirmo limit ma laha hadda maantay dadka adduunka ugu lacagta badan waxa kamid ah Elon Musk oo kale oo ninkan space iyo Twitter iyo meelaha soo iska leh maanta asaa ugu baahi lacag badan because markasta lacag helo investment cusub mar dhow hadda Twitter u iibsaday intaasoo bilyan dollar ka baxshay wax kale hadda ku haminayo ka badan una lacag u haynaa jirto maalku helan uu iibsanayo dabcan talooyinku waa badan yihiin qof cid la talisama waayo mararka qaar waxa lagu siin karaa talooyin la xiriira dhaqaalaha waxa lagu siin karaa waxbarasho mid la xiriirta mid reer dhaqasho la xiriirta barnaamijkeenu maadaama ganacsi iyo dhaqaale iyo arrimahaas aan uga hadlayno maxay ahayd Cabdifataax ahaan taladii ugu wanaagsaneed ee lagu siiyo ee la xiriirtay dhinaca dhaqaalaha arso dadkeen waxa waayeen dadyooga kale oo caalamka way ka duwan yihiin inta badan qofka fikirkiisa laguma respect karayo anu intaas qof horta waxay imaatay dhowr qof waxay imaatay inta badan su'aal waxay weydiiyaan ama wiil ama gabar ama midaan dhalay ama mid ila dhashay yaa soo qalin jibiyay dugsi sare jaamacad maxaan u dirnaa ay ugu imaadaan tala kastoon siiyo markaas aan waxay tahay waxaan ku yiraahdaa niyo ayaga hala weydiiyo hadday ku yiraahdeen wax xoolaan barana wargeedaan barana ku dhaageedo u dhaaf habartaan intaas waxaan u leeyahay waxa la rabaa qofka qalbigiisa wax ku jiro yuu ka run sheegi karaa yuu jeclaan karaa yuu berri ka maalin meel kala soo bixi karaa haddii qof ay tii jeclaa aad medicine ka tuurto tiraahdo niyo medicine hadhowtii annagana anfacayso wixii qofkeenu ku dawaqmo hadhowtii waxba ka soo saari waayo drop out noqdo jinni aad dhacayso tusaale ahaan marka tan ganacsiga dadkeena Soomaalida horta inta badan uma samaysno
haddii ku siinayaan dad inta badan ay qalbi wanaag ay ka talo fiican ku siinaa way jirtaa laakiin taladu fiican ay ku siinaya ay wanaag ka taa laakiin meel hubku kala qaatuura example aniga hadda ganacsi waxaan ku jirnaa electronics way isku dayaa maanta dhan intay ku imaadaan ay fikrado kale ka dhadhacsiiyaan waxay ku leeyihiin coffee shop waxay ku leeyihiin maqaayad waxay ku leeyihiin dhismo waxay ku leeyihiin hebel waxaasa shidan ama nala gal ama gal wareeji kamaniga bedel hebel bedel waa qaadana haddaa tiraa waxa waaye caadiyad u waalanaysa dharkaa dhiganaysa ma fahantay aniga marka talooyinka inta badan ma qaato laakiin maskaxdayda maalinka wax kusoo dhacaan oo ka cabdifitaahaan maskaxdayda isiiso wax hebel soco ee wad cidna kala ma tashto waa wada waa ku dhaqaaqa bas waxaan aaminsanahay inaan ka run sheegi karo dhaqaaji karo soomaalida marka waa dad iska qalbi fiican dad kale waxa kusii jiro markay ku leeyihiin oo ay ku imaadaan aad tala badan ii siiyo yiraahdo warnihi ganacsigan iyo waxaan iyo balaayadan maxaa kugu watay nin wax soo bartay maxaa la yiraahdaa meel fiican joogay position country oo madax joogay mishaar fiican qaadanay yaa tahay balaayadan ay ganacsiga iska daboolka maxaa kugu watay in meesha aad ku laabo dad badan oo dhahan waa jirta ay naftirkooda xumaan uma arko waxaan u arkaa inay wanaag oo ii sheegayaan laakiin way la qaldiin waa gartay marka qof boox buu ku soo tuuraa aan laakiin maskaxdayda ka socda waayahay waa si fiican u fahmay wali ma jirtaa in ama talo lagu khiyaanay ama go'aana ku jabtay weli ma la kulantay walaahi idan tii hore daba socotaa wax kastoo lay sheegay ani sideed uma qaato iska ilaalisaa aadan iskaga ilaaliyaa haddaan meel ku jabaayo waxaan jeclahay fikradayda iyo maskaxdayda waxay isiisay inaan qaato oon ku jabo haddaan ku jabo waa ku qanacsana ma fahanti laakiin haddii qof kale intuu isiiyo aan ku jabo marka horeba ma qaadanayo marka ma xasuusto talo qof intuu isiiyey aan iska qaatay si inaan dambuuq aan u qaatay haddana aan kusoo jabay ma xasuusto qiso waxaa jirtay mar aad iiga sheekaysay oo la xiriirta nin ka ganacsi jiray ma nin bilaabay ganacsiga saliid macsarta laakiin qiso cajiiba kala kulmay bal sheekadaas aniga iyo daawadayaasha sheekada horta macsarta gaalaalinka imaatay kuma bilaabanaynin sheekooyinka aan aad ku jeclahay ay ku jirtaa hadayna waxaan sheegay waxaan ku yiri dadka guuleystay waxaan ka jeclahay dadka inta badan soo guul daraystay because dadkaas energy ah ku socotay ku siinayaan caqabad markay ka hor imaato waa inaad heshaa caqabad ka daran cidii ku soo dhacday and then maskaxdaada hadhowdii aad ku celisaa tiraahdaa niyo qofkaasaaba kaa darnaa mana istaagin caqabadaan ma joojin adi maxaa ku joojina saacadan nin kugu dhiirigelisana hore socota marka qisada waa qisada min bilow ilaa dhammaad aniga isoo watay aan dhihi karaa oo aad ii dhiirigeliso haddaaya markaan qisada UK kasoo sheekayna ilaa 5 jeer aan soo jabay ama wax ii soco waayeen kasoo sheekay laakiin santa jeer aan soo jabay hal marna ma niyad jabin hal marna isma dhihin xataa ama waxaan joojisaa ama aad ka baxdaa isma dhihin because dad yu kale iga daran iga dhib ka badan mar hadda ku wareystaan soo arkay la soo kulmay la soo fariistay qaarkood aan buugaa ka akhriyay daawaday qaarkood marka ninkan waa ninaan waagaan China isla joognay nin aad akhyaar u ahaa Cabdirasaaq la yiraahdaa waayahan dambe isma xiriirin hadii barnaamijyada meelaha uu arkaa aadan u salaama waagaas ay ugu dambeysay ninka qisidiisa wuxuu ku bilaabanaysay ninka Mareykan uu joogay caruur uu lahaa family uu lahaa dadka Mareykanka taxi ku shaqeysto ahaa taxiga Soomaalida shaqo fani ka sameeyay jirta dabada qof ku dhamaatay inta soo fadhiso wuxuu yiri muddo 10 sano ka badan taxiga waday xilliga dabada ugu dhamaanaysan gaaro marka waa ku daalo alaya hal taxiga waa ku daalay inaan taxi dambo steerigiisa aan qabto inaan ka baxo yani marka familkiin waa la daala dhacay sayfin waa sameeyay muddo 10 sano adiga lacag ilaa $120,000 camal yaa meel dhigantay inta kale familkayga wixii ku baxday wuxuu yiri marka caradan warwareystay business maxay gali kartaa maxaa inta wax ka bilaabi kartaa research kan sameeyay ama data collections ka sameeyay waxaan isku dayay waxa ka soo baxday yiri inaan warshad soo saarto shaambada aan ka furo Syria
warshada waxa Syria iyo Asia looga furay wax kala maahan hada Mareykan warshadeedu ugu waaweyn iyo wax soo saar dhan inta badan China ku yeelin wax kale ma ahan library shaqaalaha raqiisa Mareykan shaqaalihiisa lacagtiisa ma bixi kartid waxay ku xisaabtamaan saacadahaas iyo time profit dhan oo sameeyay lahayd dadka qaadana inta badan marka waa laga soo bixiyaa meel library-keeda yariyaha la keensadaa and then production ka soo saarta kadib hada Mareykanka lagu celiya wuxuu yiri marka Syrian warshada ka furnay 120 wixii soo baxay waa galshay waa xiliyadii adiga 2000 meelahaas waa meel fiican ay gaarto dhahay adiga dhowr container aan soo gasho dhahay Mareykan profit fiican ku dhiftay iyadoo profit fiican ku dhiftay meel fiican mariso bilow fiican ay tahay yaa waxa dhaco yiriyay 9/11kii aan wada naqeynay 2001kii aan jeclahay inay ahayd dhacay oo labadii daaroodii ganacsiga ugu weynaa Mareykanka lagu qarxiyay marka Mareykanka waa xanaaqiyay wadamadii Carabta iyo waxaas oo dhan uu ku xanaaqay anagana warshadeen marka ma jirin cabsi waxyaabahan laga cabsado ama Carab ama argagixiso ama waxaas laga cabsado marka ma jirin xilliga soo ifbaxayeen waxa uu soo ifbixiyay qarxidaas iyo waxaas soo ifbixiyay ana markuu wuxuu yiri marka warshada ka furnay Syria waxayna iska Carab laga soo dhaxsaarayay brandigan waxayna dhan wax Arbeed oo ahaa waxa dhan af Carabiga noogu qornaa shaamada dhan suuq leeyahay af Carabiga noogu qornaa u dhahay Mareykanka markii aan geeyno waxaas ay dhaceen container dambe waa lagu dhigo dhahay and then waakii dagaalka soo qaaday 2002 ama 3 meelaha horta koodiiba warshadihii anaga iyo ku jirnay warshado kala badan oo Syria ku jira kuwa Iraq meel badan la xiray balaayba kuwa nooga horeeyna Allah warshadu baan laga xiray dhahay warshadii berihii iyo wixii meel geeyna ma leh dagaal iska bilowday taa wasku dhamaato dhahay lacag nooga ma soo haray halkaas uu qasaaray halka uu ku qasaaro dhahay idoo bilow fiican markii hore noo marayso oo profit fiican noo bilowday iyo hadda lagu qasaarno dhahay wixiina meel looga tagay ani taxi inaan ku laabto diyaar uma ahayn dhahay oo nin go'aan loo ahaa waxaan sameeyay yiri taa kale wax ka bilowdaa lacag maxaa ku soo haray adii wixii soo haray iyo wax kale marka isku jaafjaafay lacagtii wax ay soo haray wixii soo gaarto yiri lacag 50,000 meelahaas profit-kii sameeyeen iyo wuxuu soo fikirayay wixii oo dhan wuxuu yiri wax aad leey aan ku amaanay saliid macsarada meesha qiimaha meesha waa saliid macsarada Soomaaliya taa Mareykanka keento Soomaali badan ay joogtay dad aad u jecel hitwa profit fiican leedahay ka faa'iideyso dadkeenayna waa ku dhifsan laakiin ma bala keenaba Muqdisho ma asa imaaday ma sadad u soo diray ma qan Muqdisho iyo wuxuu ka raray hal container saliid macsare $40,000 ugu baxday containerkii Mareykan loo diray kulay dekada badan iyo transidiya badan waa mariyay waxa jirta marka bad aad u kulul oo markii Mareykanka loo socdo bad aad u kulul digrigeeda oo xataa waxyaabaha biyaha xataa uu karkariyo yaa jirto xilliyada qaar container markii mistake sameeyeen caagadahan waaweynka fuustooyinka waaweynka oo caagadaha ka samaysa isma macsaradii ku siil gareeyeen containerkan waa la xiri waa lagu diray ninka wuxuu yiri 2 bilood Mareykanka ku sugay containerkii 2 bilood markuu soo gaaraan faraxsan 2 container masal container ahaayeen iyo ii soo dagay containerkii markii la furay waxba kuma jiraan showbadii markuu soo maray kululeed yaa wixii caagadaha ku jireen way isla dhalaaleen badii ku shubmeen wasiiro waxba kuma jiraanba meesha shilin borta igama soo baxan yiri waa qasaaro waa la arki jiro laakiin 100% qasaaro ay qabtay 40,000 wuxuu yiri waa tii labaad waxaan dhaho yiri walaad wii taxiga kuma laabanayo optionna kalena ima furno lacagtii waxaad soo haray waa wax less than 10,000 ay soo hartay waxaan dhawaynay waqti taxiga kuma laaba taxis waa marsan soo joojiyay waa inaan ganacsi kale wax kale isku dayo ani nin kale is wareysanay ani nin kale waxa soo sino yiri wuxuu yiri baqaayad beec oo meesha ku taalo yaa jirto صح lacagta lagu rabana waa 16 meelahaas aan isla iibsano adina wax keen anu wax keeno isku darsano wixii soo haray ninkii wuxuu hayaan isku darsano yiri maqaayadii furan maqaayadii dhowr maalin markii horta noo shaqeynaysay
qoladii oo city councilka oo dowladda iyo noo imaatay waxay la yiri dabaqan hoos ugu naalaa waa 12 biyaan u dhah yaa waxa la yiri meeshii jikada maqaayada waa inaad tuba ka bixisaan oo naqaska saarayso sida sharciga oo ilaa kor dabaqa meesha koraysa geysaan hawadan dadka pollution-keeda ka bixisaan banaan ku bixisaan ida kaligeeda $2,000 weey hadii kale way xiriisaan warqad digniina naloo keenay waa yaabno yiri $2,000 saacada inta la keenay dala soo jaaf deyn qaado inta ka soo qaado waxa yarno yiri intii oo naqaska saarayso oo jikada ka soo qaadaysa la qurbiinaysa bil amal markay joognay 2 bil aan joognay maqaayadii customer ma leh soo nimankii hore niman hindi waxbaan ka iibsan oo yiri wax iska iibiyeen bay customer laan ahayd meel highway ku taala oo yiri kamaniyaal oo shaqaale badan oo $2,000 5,000 qofood ka badan u shaqeyso yaa dhinaca kale highway ka jiro laakiin highway dadka ma soo gudbi karaan أنا waxaa sinooray kamaleesha tirada badan oo leeyahay soo gudbi karo wax soo gudbo ma laha weekend wala isardara lama soo gudbi karo hadii 2-3 bilan dul qaadanay waxaan yiri waxaad ama iska xirno ama qorshe kale la imaano ninkii wuxuu qorshe wuxuu keenay yiri ka waran hadaan troll inta soo qaadano cuntada diyaarino dadka highway soo ma gudbi karaan markii break time la soo deeyo anaga intaan gudbino dhinaca kale aan la tagno meeshaas idoo take away dadku u qaybino lacagteena ka samaysan waxaan ku yiri meel had u laabana ma laha aan gudbino laba trooliyan soo gadanay wixii waa diyaarina waa saarno dhahay waa gudbinay maalinta koobaad oo ku dhifsanay maalinta labaad oo ku dhifsanay meel fiican martuuy laakiin balaa waxa ka dhacdo yiri dhowr bari ka bacdi ya qolooyinka dhinaca xagga ku yiilaan dacweeyo waxay yiraahdeen marka ganacsigooda dhinaca wadada ku yaala inay inta trooliya ku soo qaadaan dhinacayna iyo maqaadihiina yaryar noo korkeenan ugu dhiibsadaan ma naqabato أنا دابا بوليس أنا لو سود هذه تجنين ورقتها أنا لو كان واحد يرحل معنا هذا جود بيسين رشيد أنا قاعد قصة ميسان مقعدنا ولا ذيك كان حركاتي واجن ود العويل المقايد دي لحي طبعا كون أنا كبي حني دي بيناس كي حراشنا القطير بس هذه حاجة أنا لقيت عليه أنت أنا عن وحبوك وهاينن نو ريسن أسي شخيصه ما جرته مش كيس الدحاد كفشل واتيس الدحاد واسكا حراشنا ويري marka waxba iga ma soo dhicin wiri oo lacag adeeg 3,000 4,000 wax noocaas waxaan badnay iyaga soo gaarooyay waa lacagta marka 120 kii ay ka soo bilaabato ninka 10 sano u shaqeynay si uu soo socotay saddexdaas ku soo aruurtay nigaas marka 10 badan Mareykankana waa expenses badan yahay ama sida Europe oo kale ciir waxba lama qaato family-ka waa ina 100% adeeg kirada bixisa wax walba bixisa tala ay ugu cadaatay yiri أنا استرس بدنا كقاعد ويري بس نسيتي وحي فيل قروب وحي يودن نين ولا لا هيني أو أد خيار وهاي أو لا شيء أو مش جوبي يعني كو يروني بس عشان أبهنا إنتان وسوف فيل قروب بل أن مركز ولا بتاع من جاري كلا فول أما سكال عن ده هو تحال سنة فاميل كمية قبل كرتا أو بيل ميسي كرتا ninkii walaalkay hay aad u kalsoona wuxuu yiri ana hal sano ka mashquulinayo oo biil ka bixinayo soo naso aradan fiifiisinta ku soo naqsan kartaa waxay soo baxday yiri China inuu ku soo nasto marka ana markan is arkayna China isku aragnay muddo waa isla shaqeynay xilidii marka 2006 amalan China ma dawir inta liska soo daba jiitay maadii business ila 2006 soo gaaray 2000 soo bilowday China marka imaaday China waxa uu imaaday yiri inaan ku nasto hal sano iska joogo kadib bal meesha wax ka bilaabay aan arko hal sano markaan joogay yiri China martay waxaba qaar qofka Ilaahay horta uu test gareeyo waa lagu test gareeyna testiga sadaq ku sabarto aadan marna quusanin wax uun Ilaahay waa lagu abaal marina ninka marka Ilaahay wuxuu soo diray wuxuu yiraahdaa hal sano iska joogay family-kii waa ka soo fogaa maanta qofkana waxa la yiri mar hada naar galaysid wala tiin badamay Soomaaliyeed dhig jireen xilliga marka wax aniga ii soocna ama wax ii hagaagsanaa ma jirno gabar muslim oo Chinese oo laba caruur markaas haysatay laakiin harmal ahaday yaan xogaa isla hadalnay waa isfahanno yiri guuran ku heshin waa guursa waxba ma haysto laakiin si yar oo mobilka hal China lagu soo dirayay inta uu guriga ku deganaa inta uu ka faa'iideysanay waxbana ma halka sana ma shaqeyn waxbana soo ma kordhin u dhahay sheekadii family-kii dambo oo Mareykanka ka maqleen uu yiri Mareykanka family-ku ay ugu kaceen telefoon la soo diray heer waxa isla gaalnuu yiri sawirkaaga
yaan waxaan geynaynaa home affairs ka maal yiraahdaa kuwan oo homelandka oo security sawirkaaga intaan geyno waa xilligii argagixisada aad u waalneed oo Afghanistan iyo meel walba iyo howlada dagaalada ka socdeen waxaan leenahay sawirkaaga waa kana ninkan waa ninkeeni sawirkiisa waa kana wuxuu naga aaday Afghanistan iyo qaacidada waaweyn oo noqday ana marka intaa leegu yariyay wuxuu yiri wax ii fayoobay ma jiro nin stress ka dishay dhibana ah yiri kasax ku yiri wargahay waxa inta la ayb waa inta markii soo raasay maanta aan qabsa ama meel igeeyo hada badan ama isina midila aan doon gee waxa artin sameeyay go'aan iska qaato wiil go'aanka iska qaatay iska sii joogo yiri muddo kala sanad kale ku sii dhow ilaahay marka uu ruux u bixiyay maashi liibaandiis uga bilaabanayso ay tahay anaga jayna markaan joognay ama businesska dadka ganacsatada Soomaalida iyo ajaanibta kale oo dhan ay jayna joogeen lacagta waxa loo soo diraa account to account Africa kale markaa ka soo diraysa ama Nairobi ka soo dir ama Muqdisho ka soo dir ama Djibouti ka soo dir ama Tanzania ka soo dir ama Europe kale ka soo dir account lacag ku soo dirsanaysiin qof Chinese oo leh why not oo gabadhayda maadaama ay Chinese tahay islaantayda aan u soo dirsan karin sababta uu leeyahay wax kale ma ahane Chinese-ka waxay sameeyaan tax return wala la yiraahdo $1 milyan oo dollar account-kaaga hadii lagu soo diro outside-ka banaanka wadanka ay ka soo geliso oo through your account ay ku soo gasho wadanka return wax lagu siinayo lacagtaas waxay noqon kartaa 10,000 ku dhawaad ay noqon kartaa marka asigu guri waxa galay maadaama Chinese kale dhanbo la aqoon looga faa'iideynayo laguna qasbiyaan lagu soo diro why not gabadhida loogu soo dirsanaynin and then meeshaas aan wax u raadi karin Soomaalida iska dhib badan yihiin marka hore ku number 1 lagu aaminayo number 2 ne waxaad u baahan tahay dadka taskiye way adkaatay loobin badan u sameeyay dad badan u tagay ku dad familiadiisa hal qof iyo laba qof oo aaminsan oo konton boqol wuxuu iska soo dirsanaa ku bilaab wuxuu baa ugu soo dhacay 200 ha noqoto waxaan noqoto waxba ugu soo dhacay wada u furantay loobinkiisu sii badsaday dadku waxay isku xirnaayeen marka ganacsato Kenya ka imaato Soomaali u badan oo Kenya alaabta soo qaadana Kenya soo qaado ganacsato Tanzania ka imaato kuwa Mozambique ka imaato kuwa Soomaaliya ka imaato kuwa Djibouti ka imaato wuxuu isku dayay marka inuu wadan uu raadsado la fadhiisto ninkii waxa uu suurta gashay in account-kii dhaqdhaqaaq uu fiican sameeyo lacag badan uu soo celiyo xilligan aniga aan wada sheekaysanayno ama sheekadu ila wadaagayo waa 2010-11 waa ninkii guuleystay xilliga aniga sheekada ila wadaagayo warshada leh warshadihiisa waxay dhoofiyaan inta badan Yurub iyo Mareykan loo dhoofiyo xilliga sheekada ila wadaagayo ninkii marka hal qof lacag ku soo dirsado labaha ku soo dirsado waa uu sii balaaratay ritaanka uu soo haray waa batay intii uu business ka sii bilaabo iyo samaystay family-kiisa isku dhacsanaayeen waa heshiiyeen xilliga aniga aan sheekaysanayno guriga waaweyn oo ka gatay Kenya oo Nial Beach la dhihi jiray oo Mombasa oo ka gatay kuwa wadamo kale oo ka gatay jiraan family-kii Mareykanka waa laga soo raray nolol kale galeen asiga warshado kale u yeeshay xilligaas anigu ku sheegayo ninka account-nada uu lahaa oo through gabadhiisii meel kale ku samaysna sub accounts tira badan jiro hal account kamid team aniga la shaqeynay Tanzania kamid ana la dhiibay xilliga mid kale saaxiibka hay laakiin midkii saaxiibka kadib ana la sii dhiibay authorization waxa la sii sameeyay lacag ka soo bixi karo aniga shakhsiyan account-kaas lacag ka heli jiray maalintii yaraato $100 iyo ku dhawaad aan ka heli jiray marka ninka intaad aragtay soo kacay soo kufay meesha aragtay soo gaaray sabray markii dambe ma sha Allah nin waxa uu ahaa milyaneer oo warshado leh oo wax suuqeeyo oo laakiin hasoo ahaatee intuu soo sabray intuu soo maray iyo intuu ma quusan waxa ku muhiimadu waxa waa inaadan quusanin oo daro socdo waxba aad ka dhiirigeli qisada aad ka dhiirigeli kamid tahay ashar badan waa laga baran karaa aad iyo aad su'aal waxa jirta ganacsi ku gaar ah iyo shaqaalnimada midkee dhib badan midkeesa kula talin lahayd dadkana daawanaya walaa horto shaqaalnimo ma dhib yaro markii labadooda midkee dhib badan yaraato labada waa dhib badan waxaan lagu dhibtoon looma dheefsado Soomaalida dhahan the more aad energy iyo juhdi aad geliso the more aad production-kaaga u fiicnaado waay
shaqaalanimada niyahu halka mid horta ku cuntaa waxay tahay qof la controla saacadu soo gala shaqada saacadu ka baxayo maanta dhan ama report laga rabo ama kii laga rabo ani waxyaabaha horta inkastoo mar kastaba aan shaqaalanimo aan jeclayn markasta aan business aan jeclaa waxyaaba aad u dhiirigeliyay waxaa kamid ahaa intii aan shaqaalaha ahaa especially markii ugu dambayso hadda country level aan ahaa aadan u safri jiray waxaan samayn jiray quarterly travel plan waa 4 bil aan travel plankayga laga rabaa inaan soo qoro 4 bilo soo socoto maalin walba iyo meeshaan joogayo iyo shaqadan qabanayo waa sii qora waa gudbina hal mar aan gudbina markaan gudbiyo waa layga tirsana intaasoo beri magaalo hebel intaasoo beri magaalo hebel intaasoo beri magaalo hebel shaqo hebel intaas qabanaysa arrimo marka 4 months quarterly plan markaan sameeyo travel planka aan sameeyo haddana safarka soon aadayo waxaa laga rabaa inaan work plan aan sameeyo haddana intaan meeshii tago shaqadii inaan qabto haddana aan report dhammaystiran aan ka bixiyo maalinta ku xigtana magaalo kala dalisii sugayso subaxii shaqada 7:30 aan galaa 4:30 aan ka soo baxa 4:30 shaqada kula sugayay ilaa habeenkii kala qabanaysa ani marka waxaan iska dhaadhacsiiyey shaqadan tirada badan oo 4 bil kaso travel plankaaga aad samaynayso haddana marka 4 bil ay ka dhamaato next 4 months travel plan aad samaynayso intaasoo report aad samaynayso intaasoo shaqo aad samaynayso inta train aad samaynayso haddii waxaad adiga leedahay aad geliso production fiican soo saari lahayd wax ka fiican inta hadda mushaarka ku qaad ka badan soo saari lahayd taas horta ugu dhiirigelisay inaan maxaa la yiraahdaa aan ka soo tago on businesska intaas hadda shaqa juhdi ay ku sheega ka yar u baahan yahay ka yar taas u baahan yahayne ka badan oo soo saara inta soo saari jirta iyo waxa isku hadlay karto marka labaduba horta ma dhib yaro laakiin kun jeer waxaad ku raaxaysanaysaa waxaad adiga leedahay marka ka shaqaynayso oo cid aysan ku xukumin ana hadda mararka qaar waxa dhacdo maraan aan tendero iyo contractual iyo waxyaabo aan ka shaqaynayo inaan dhowr habeen ama hal habeen ama laba habeen saddex habeen oo isku xigto aan soo jeedo aan jiifan laakiin xanuun yar iguma hayso because waxaan ku raaxaysanaa qabanaya and then waxa dhici karto waxaan ogahay 3 biri ama 2 biri ama 3 biri isku xigto oo soo jeedo in 10 biri ku xigto aan jiifa karo tan laakiin waa waqti ku cayiman oo lagu gooyay oo inta uu dhaafi karin markaas marka waxa dhib badan shaqaalanimada qofka wado uga bixi karo haduu helo go'aamo adag iyo wixii rabtaa shaqaalanimada waxyaabo ugu duwan tahay business waxa kamid ah lacag yar oo lagu control bilkaas ugu soo dhacayso oo sugayso wixii qarashaadka iskaga bixinayso taasa marka waxay keenaysaa qofka inuu ku celiso meeshii waa fiican marka qaar payment fiican lagu siina paymentkiisa waa ku raaxaysanaysaa waxaad hilmaamaysaa marka in wax kala qabato shaqaalimada marka waxyaabahaas mushaarka iska soo dhaca joogtada waxyaabahaas ku fiican tahay laakiin in rijigaaga inay save garayso meel kale uga faa'iideysato wax badan soo saarto korto hore u socoto aad rabto waa inuu qofka business isku daya qofka san isku mid yahay waana marka hore isku soo diyaarisaa kadibna aad hore u socotaa waayahay abtaxada ma san tahay su'aasha ugu dambayso oo aan ku soo gunaanadeyno wada sheekaysigeena waxay tahay dad ayaana daawanaya qaarkood waxay rabaan inay ganacsi bilaabaan qaarna waxay rabaan inay marka hore dhaqaale sameeyaan si ay u sameeyaanba dadkaas talo 1 2 3 aad jeclaan lahayd inaad siiso maxay tahay markii ugu dambeysay oo shaqada aan ka soo tagay waxaa jirtay xaflad qurux badan oo sawiirtiin oo la dhigay xafladda waxay u badneed taa xafiiska aan ka shaqeynay lagu dhigay iyo mid kale oo banaanka xafiiska baxsan magaalada gooni lagu dhigay tiimka isla shaqeynay dhigan yaa ku xigtay meesha aan ka soo tagay aad la iga jeclaa meel aan guulo badan aan ka soo sameeyay heerar fiican aan la soo gaaray iyo ahayd marka teamkii aan isla shaqeynin waa team ay gubaysay sidoo kale dhamaantood waxay gubaysay shaqaalanimada wada shaqaalanimada looga bixi kulli wada raadinay laakiin wadadii lama hayo waxaa marka aadka iga la dardaarmeen xafladaha ay ugu dhigayeen waxa u badneed waxay dhahayeen horta go'aankiisii ma laha qaadatay laakiin wax kasto dhaco nihu haddaad fashilanto aniga dhan waa wada fashilmaynaa
intaad naga tagto soo fashilanto nin hanagu soo laaban waay ama meelo kale adoo ka shaqaynayso oo hay'ado kale meelo kale joogtid yaana ku arkay annaga niyad jabayno inta xafladaha la dhigay banaanka la igu dhigay waxay ahaaday warniyo adoo guuleysta aan ku aragno si annagana noogu fududaato inaan shaqaalnimo ka soo baxno oo maxaa la yiraahdaa aan wadadaada kala soo furno markasta horta aan culays dareemo businesska oon adeeg dareemo nimankii uu soo dhacay saaxiibaday ahay oo akhyaarta ahay wiilal gabdho isku jiray oo dhahayay warniyahow inaad guuleysataa rabnaa wada fiican inaad noo bilowdaa rabnaa wadadii alxamdulilah waa bilaabay almost 5 sano ku dhawaada kasoo wareegatay iyo guul iyo horumar aan kusii jirnaa nimankii markaa hadda isku dayo iraad warniyo kaalay weli qafladii waxay ku jiraan sharkii iska soo dhacayo tirada badnaay cabsida banaanka nimankii tirada badan xafladaha idiga horta qaab isku keenay weli waa la laakiin qalbiga waa ka jecel yihiin oo inay wax sameeyaan sidee looga bixi karaa oo business loo geli karaa ama shaqaalnimo looga bixi karaa waxaan kusoo koobaa inta badan horta ani markaa isku dayada sameynay 5 isku day oon kusoo fashilmay aan kuu sheegay 5 isku day 4 ka mid ama 5toodaba anoo shaqaynahan sameeyay marka intaad option haysato oo shaqaynayso intan wax ka soo dhacayaan waxa la yiraahdaa lugna inta gasho lugna inta gasho la alaabtaas intii laba lugood labada meel ku kala jira inaad guuleysato waa adagta laakiin markaad go'aan soo gaarto oo tiraahdo niyo aniga halkaan meel u soo go'ay business u soo go'ay ama aan wax ka helo ama yaanan ka helin horta waa dhibtoonaysaa dhib waa maraysaa mushaarkiis ka soo dhici jiray iyo qaxar iyo dhib iyo lacag la'aan waa gelaysaa laakiin at the end of the day waa guuleysanaysaa haddii adiga lilaahi kaa tahay oo maxaa la yiraahdaa u diyaarsan tahay kaa go'an tahay laakiin intaad lugna inta kula jirto boqolkiiba 90 waxay u badan tahay inaadan guuleysanin cid kastoo marka shaqaalinimo iska joojinayso oo dhahayso niyo ani business soo gale waxaad ka run sheegi kartaa markaad boqolkiiba 100 inta u soo go'do aad tiraahdo niyo aniga business lagu ogyahay ama ida wax ka soo saara ama idan la kaca waxa laga yaabaa sanad waxa laga yaabaa 6 bilood waxa laga yaabaa sanad waxa laga yaabaa 2 sano waxa laga yaabaa 3 sano inaad dhibtooto laakiin at the end of the day waa ka baxaysaa kun jeerna waa ka fiican yahay shaqaalinimada iyo mushaar qaadashada waayahay aftaaxada ma santahay runtii wada sheekaysigan waxaan filayaa in ay noo xigi doonaan wada sheekaysiyo kale oo bulshaduna aad uga faa'iideysato intaas ayaan runtii kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii labeynta bulshada oo maanta uu marti noogu ahaa Cabdifitaax Maxamed Cabdi oo loo yaqaano Qaydan leh waxaan ka hadlaynay bilaabidda ganacsi cusub iyo sida ganacsigaasi uu noqon karo mid guuleysta iyo sidoo kale laftigeedaba qodobada ama caqabadaha ku geedaaman dhawaan waxaa idinku soo maqan mowduucyo kale oo waxtar leh isla markaana aan rajaynayo inaad aad uga faa'iideysan doontaan haddii dabcan barnaamijka intii uu socday wax un ay kaa xiise geliyeen qaybta faallada nagula wadaag aadna waan kaaga mahadcelinaynaa runtii intii aad nala joogtay oo aad barnaamijka daawanaysay falcelintaaduna muhiim bay noo tahay haddii aad ka mid tahay daawadayaasha nagu taxan waad ku mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir sidoo kalena barnaamijkan la wadaag saaxiibadaada si ay uga faa'iidaystaan sidaas iyo nabadgelyo